بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa galbeed t v xaruntiisa magaalada edmonton ee dalka canada oad naga daawanaysaan caalamka oo dhan bartayda facebooka ee galbeed t v daawadayaal waa barnaamijyadeennii wacyigelinta arrimaha siyaasadda dowladnimada cadaaladda sinaanta dimuqraadiyadda iyo dowlad wadaagga iyo guud ahaan waxyaabaha danta waa ummadda soomaaliyeed oo hadda jiraan kaga hadalno maanta waxaa iigu marti ah oo barnaamij gaara aan waraysi kaga qaadaya ismaaciil yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka adal oo dhowaan lagaga dhawaaqay dalka canada gaar ahaan magaalada ottawa ee dalka canada ismaaciil marka hore kusoo dhawow galbeed t v waad mahadsan tahay walaal cumar ismaaciil waxaa tahay nin reer jabuutiya muddana ku noolaa dalka canada bal waxaad nooga warantaa dalkii hooyo guud ahaan jabuuti xaaladeedu hadda siday tahay dhaqaaqyo siyaasadeed iyo waxyaaba fara badan baa ka socday waqtiyada u dambeeyey wiil lagu xidhay iyo dad lagu laayay iyo waxyaaba badan baa socday markaa bal nooga warranta halka waxaa ku marayo horta waad mahadsan tahay walaal cumar intaanan su-aasha ka jawaabin waxaan horta doonayay inaan salaamo daawayaasha iyo dhegaystayaasha galbeed t v waxaana ku salaamayaa salaamta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolka haddaan su-aashaan usoo noqdo aad iiga weydiisay xaaladda waddanka jabuuti maanta ka joogta horta si aad u ogtihiinba dadkoo dhan u ogyahay waddanka siyaasaddiisa dhaqaalihiisa iyo arrimaha bulshadeedba aad ba u liitaan anigu iminka waxaan ka sokeeyaa in adigu 5 bilooda ayaan ka soo sokayaa waddankii jabuuti waxaan ka imiday iyo xaaladda bulshadeed weliba caafimaadku aad uu u liito oo dadkii ay ku dhaceen xanuuno la yidhaahdo kaniicadii daangii kuudaday mataqaana colayaasha kungaaniya dadkaasoonan dhakhtarra aynan jirin dawa aynan jirin dee dhimashaduna mataqaanaa maxaan ku dhahdaa ay si lixaad leh dadkuna ugu dhimanayaan waddankii ugu dambaysay iminka cudurkan dee jadiidkee mataqaanaa covid-19 amba covid-19 la yidhaahdo oo dee dharar kastaba lasoo sheego dad ku dhintay oonan ahayn dee mataqaanaa hebel iyo hebel aanad garanayne dadkii aad taqaanay ayaa maalin kasta lagu soo sheegayaa haddii aan xaaladda siyaasadeed aan ka yaraa sheekeeyo waddankani cumarow waxaa haystay in 43 sannadooda odaygii xasan guuleed iyo ismaaciil cumar geel ismaaciil cumar geelle iminka 21 sannadood ayuu waddankaasi ka taliyaa oo inan cid alle cid ku qortaay jirin uu kelidii ka taliyaa taasaa uunan rabin in qof qura oo bini aadan ah oo su'aal weydiiya ka soo horjeesta oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa yidhaahda war waddankaasi dee sidan aad ku wadaay dee si hagaagsan ma aha dhibaatana way leedahee waa in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa si ka duwan dee waddankani ma garanaysaa lagu dhaqo wixii macaarid ahaa waddanka uu ka tirtiray maanta dadka jabuuti cid u hadashaay ma jirto waxaanan ahayn sheekh cabdiraxmaan gool macaaridkii iyo dadkii kale oo dhani dee wax dhulkii mataqaanaa ka tega ma garanaysaa dee qurbo gala kuwa mataqaanaa dee ku dhintay iyo kuwa mataqaanaa maxaan ku dhahdaaba dee la aamusiyey ma garanaysaayoo dee aanan wax alla waxay ku hadlaan af ay ku hadlaanan lahayn ayuu dadkii u qaybsamay kolkaasi maanta waxaad arkaysaa dadkii oo sabool noqday dadkii oo dhibaatadii aad u taabatay dadkii oo dhan alla dhan ay u ciirsadaan ganalla kolkaa marka aad sheegaysay inankan fuaad ciidamada cirka ee la qabtay
mataqaanaa jirdilka lagu sameeyey sida foosha xun leh ay dee nooga aragnay Facebook iyo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa social networkinga magaranaysa aan ka aragnay maca dadkii markay soo bannaan baxeen dadkii markay maxaan ku dhahdaa dee dibadda u soo maxeen waxa ka keentay waxayaan kulayl iyo karmo hoosta ku jirtay oo markay mataqaanaysa arrintaasi dhacday ayaa mataqaanaa maxaan saada qarxisay maanta weli siyaasad ahaan waddankii ma degana waxa kale dhibaatada waddankii jirta ay waxayaan waa dhibaato dhaqaaleed waddankii haddaad maanta aragto lacag bilaa cadad lahayn ayaa waddankii soo gasha oo saldhigyada mataqaanaa maxaan ku dhahdaa maraykanka ha ahaato jarmalka chinese ayaa lacag aadanteed qaraqa ayaa waddankii soo gashay dadkii reer jabuutina lacagtaasi way ka gaajoonayaan maanta 70% waddanka jabuuti weliba dhalinyaro badan oo bilaa shaqo weeyaan maanta waddanka jabuuti 60% $1 wax ka yar ayay dharaarti ku nool yihiin taasoon ognahayna sixir bararka waddankaasi ka jira oo waxaaba jirta yar maraykan oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa social network garanaysaa ku jiro oo yidhi waddanno badan baan maray qaaraday doonta ha ahaato waddan doolarka maraykankuuna waxba goynaynin waxaan arkay buuri magaaladii waddanka jabuuti kolkaa dhaqaale ahaanna maanta waddankii halkaasu maraya haddii aan caafimaadka sheego dee horena waan sheega haddaan ku soo noqdo wax alla wax dadkii maanta dikadahaasay ku dhimanayaan oo wax alla wax daweeye ma garanaysaa amba ka gargaaraya ma jirto haddii aan mataqaanaa tacliinta u soo noqdo aan ka hadlay iyada maanta dugsiyada hoose dhalinyar baa ka soo baxda oo la leeyahay shahaadad bay ka soo qaateen iyagoona waxna qorayn waxna akhriyin markaad ka timaado jaamacadda inama jaamacadda ka soo baxay baa jirto oonad garanayn wax alla waxay qorayaan iyo wax alla waxay ku hadlayaan halkaasay maanta tacliintiina joogtaa kolkaa maanta waddankii dee dhibaato aad u weyn ayuu ku sugan yahay dadkiina mataqaanaa sabool bay noqdeen si fiican haddaba ismaaciil adoo waxaasoo dhibaato og hadda urur baad aasaasteen la yidhaahdo udurka adal ururkan waa maxay sababta aad u aasaasteen eed mataqaanaa maanta aad usoo bandhigtay adigoo hore ururo hore oo mataqaanaa siyaasadeed kusoo jiray maanta ururkan adal bal looga waran sidaad doonaysaan iyo waxa uu ka shaqayn doono ma urur siyaasiyaba ma urur mataqaanaa humanitarian ka shaqaynaya bal hadda ururkan noo fasir iyo sida mataqaanaa ku aasaasmay iyo waxa hadafkiisu yahay waad mahadsan tahay cumar horta mataqaanaa marka urur la yidhaahdo dee waa dad isku yimid weeyaan markay dadku isku yimaadaanna waxa isku keenayo waxayaan war dee amba baahi amba dhibaato kolkaasay yidhaahdaan war dee aynu qarabka isqabsanno aynu fooda isgelinno oo dhibaatadan mataqaanaa meesha jirta dee bal haynu iska kaashanno oo xalna hanu helno kolkaa taasaa keentay ma garanaysaa inaan ururkan sameeyo kolkaa ujeeddadiisu waa maxay dee waa sida aan kaaga sheekeeyey ma garanaysaa dadkani mataqaanaa xubnahani ku jira ururkani waxay ka yimaadeen jabuuti waxay ka yimaadeen mataqaanaa waqooyiga soomaaliya qaarna waxay ka yimaadeen ma garanaysaa etoobiya oo kelinka shanaada ayay ka yimaadeen sidaan ognahayna saddexdaa meelood ma garanaysaa waddan aan badee waddan ku sheegan aan soo sheegay dhibaatooyin baa ka jira tu siyaasadeed ha ahaato tu dhaqaale ha ahaato tu bulshadeedna ha ahaato kolkaa inaan mataqaanaa darisno had iyo jeer dhibaatooyinkaa jira
iyo sidii mataqaanaa xal loogu heli lahaa sidii mataqaanaa warbixin dadka dibadda jooga loo siin lahaa maanta jabuuti markaad soo qaata haddaan dee tusaale iyadoo soo qaato maraykan baa jooga oo faransiis baa jooga oo mataqaanaa jarmal baa jooga kolkaa dadka iyadan dibadda joogaa inaan idhaahno war waddankani waxaanoo lacaga aad soo gelinaysaan dhibaatada dimuqraadiyadeed dhibaatada mataqaanaa siyaasadeed ta bulshadeed ta dhaqaaleed ee waddanka ka jira dee waxaad ka mid tihiin kuwa mataqaanaa maxaanku dhahdaa dadkaasi dhibaatadooda mataqaanaa waayaad ka qayb qaadanaysaa kolkaa inaan qoraal ha ahaato hadal ha ahaato inaan intaba u gudbinno oon ka sheegno mataqaanaa oon ka sheekayno dhibaatooyinka jira waddannadaasi ayaan maaragtay ururkani u abuuray si fiican ururkani markaa waxaad tiri waxaan u abuurnay dhibaatooyinkaas jira marka ma urur siyaasadeed baa oo siyaasad baad ugu tala gashay inaad mataqaanaa ka shaqeeyo oo aad ku waajahan yahay soo ma horta mar haddii aad ka sheekaynayso dhibaatooyinka jira dee siyaasad kama fursan kartid waxoo dhanna waa siyaasad weeyaan kolkaa inaan siyaasad ka hadallo waa geedku ga'an weeyaan marka aan mataqaanaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee jabuuti ka jira ka mataqaanaa maaragtay waqooyiga soomaaliya ka jira kuwan maaragtay kelinka shanaad ma garanaysaa ka jira markaan ka hadlayno dee siyaasad baan ka hadlayna laakiinse taas uun kuma koobnaanayne sidii aan mataqaanaa dadkii dhulkaa deganaana aanu gargaar u gaadhsiin lahayn ayaan falankeed qabanaynaayoo iminka mar dhowey waxaaban samaynay gofund aan mataqaanaa maxaanku dhahdaa lacag ku ururino oon dadkii dhulkii ma garanaysaa dee saboolkee dhibaatada mataqaanaa covid-19 ma garanaysaa gaadhsiiyo inaan mataqaanaa ka gargaarto haddaba magaalada jabuuti haddaan soo qaadano guud ahaan waxa weeyaan dee xanuunku aad buu ugu dhacay saameyn intee lag buu ku yeeshay dalka jabuuti xanuunkaasi horta dadku aad bay ugu dhintay oo dee waataan kuu sheegaya ma garanaysaayo malaha 3 cisho ka hor waxaa la ii sheegay inaan dhallinyartii aan soo wada korreen iskoolka soo wada dhigannay waa nin mataqaanaa maxaan ku dhahdaa injineerka ahaa howlaha guud ma garanaysaa ayaa ku dhintay covid-19 oo dee waa waxyaabo kaa yaabiya weliba ma aha dadkii saboolkii ma garanaysaa waa dadkii la tuhmayey magaalada inay mataqaanaa dee dhaqaale yar iyo wax haystaan maanta dadkaasi ayuu leynaya laakiinse wax alla wax mataqaanaa tirakooba oo waddankii laga hayaay ma jirto waxaan si ognahay dee wararka naga soo gaadhaya in aad iyo aad xanuunkaasi dadkii u dhibaateeyey si wanaagsan marka laga hadlayo adal markaa ka hadlasaan kolley de waa qabiil bay mataqaanaa salka ku haysaa community fara badan oo reer jabuuti ah oo kasoo jeeda maxaan ku rahdaa adal ayaa ku nool dalka jabuuti intee lagu qiyaasaa tiradooda dadka ku nool hadda ee ku nool jabuuti ee maxaan ku rahdaa adal kasoo jeeda horta wax tira kooba oo mataqaanaa la soo saaray oo dowladdu soo saartay ma jirto mid baa la sameeyey waxaan u malaynayaa 1990kii laakiinse wax ka soo baxay oo dee dibad loo soo sheegay waa la qariyey haddiise aan anigu idhaahdo war jabuuti dee gadabuursigu imisay mataqaanaa yihiin waxaan ku qiyaasi karaa 20 ilaa 25 inkastoo imika dee dad badan ay ka haajireen oo ay ka tageen amba mataqaanaa waddannadaa jaarkaa ha tagaan amba dee sidan anigoo aan kamid ahay ma garanaysaa qurbada ha u soo baxaane in dad badani ma garanaysaa waddankii ka tageen laakiinse gadabuursigu berigii mataqaanaa intan dee aynan xornimadan iyo mataqaanaa xasuuqan iyo dee dhibaatadan aynan imanin waxay ka mid ahaayeen bulshada ugu badan waddanka jabuuti maanta laakiin maaha sidii maanta sidii maaha adigu waxaad kasoo jeedaa dalka jabuuti muddana waxaad ku nooshay dalka kanada ku nooshahay dalkiina waad ku laabataa
mucaaridna wadahay sideed markaa maamulka Ismaaciil Cumar Geelle aad isku waajahdaa markaa tagto waddanka horta markaan ka imiday anigu waxaan madax ka ahaa urur mucaarid oo UDP la odhan jiray waxaan mataqaanaa guddoomiye ku-xiga ka ahaana urur mataqaanaa umbrella mataqaanaa oo ururada mucaaridka isku tegay ayaan mataqaanaa guddoomiye ku-xiga ka ahaa 94 baan markaa Djibouti ka yimiday 16 sannadood ayaan ka maqnaa 16 sannadood dabadeed baan mataqaanaa ku noqday afar week Djibouti kolkaa wax siyaasada oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa galay ma jirin ma garanaysaa waalidkay ma garanaysaa oo dee iska yara xanuunsanayay ayaan gaadhay markaan galin la joogayna mataqaanaa waan ka soo noqday iminkaan haddaba dib ugu noqday kolkaa maanta waxaad moodaa markaad siyaasadda eegto inkasta uu mataqaanaa fara kulul ku hayo oo dee dad macaarid dibad u soo baxa oo dee hadalla oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dadkii shiriya aanan la ogolayn haddana mataqaanaa haddii waad la kulmi kartaa dad oo intii markaan iminka aan joogay magaalada Djibouti dad macaarid ah laakiinse dee aanan soo shaacbixin waan la kulmay kolkaa waxaad arkaysaa dadkii inay wax rabaan inay bislaadeen in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dhibaatadii marka hore ee la odhan jiray waar qaarun baa sidaasa ee dadkii la kala docdocaynayay ee dadkii mataqaanaa la kala qaybinayay inay dadkii wada saamaysay oo maanta dadkii reer Djibouti lama odhan karo qof quro oo mataqaanaa ayna taaban baa jirta si wanaagsan marka waxaad leedahay iminka Djibouti waxa wada dhibtii waa wada taabatay markii hore waxa laga yaabaa in beelaha qaar la taargadgareyn jiray oo mataqaanaa marka laga soo qaado xasuuqyo badan baa lagu sheegay Djibouti inay ka dhaceen xasuuq mataqaanaa kii arxiba bulduqo iyo kii maxaan ku dhahay cafe maxaan ku dhahdaa 94 kii dhacay oo kale marka waxa leedahay maanta dadkii way soo wada gaadhay dhibaatadii oo xasuuqii awal dadka qaar ku dhici jiray maanta qof kasta uu dareemaya haddii dhibaato dhacdo ama mataqaanaa cid walba way gaadhay dhibaatadii waa diyaarna waa loo yahay dadku inay maanta ay arkeen wixii jira oo dad mucaarad badan oo dee aan soo shaac bixin baa jira laakiin bislaaday soo ma jiraan hadda waa aad iyo aad dadkii maanta sidaa aad u sheegayso marka hore waa la qabyaaladeeyey waa la docodoceeyey waa la iska hor keenay reer hebel baa meesha leh reer hebel meesha mataqaanaa shaqo kuma laha dibad bay ka yimaadeen waxaasoo dhan baa dadkii la dhex dhigay kolkaa marka hore dee dhibaatadu qaar unbay gaar u ahayd maantase dhaqaale xumaha iyo dhaqan xumada meesha ka jirtaay dadkii oo dhan waa wada taabatay maanta markuu 70% bilaa shaqo yahay dee qolo uun kuma eka ee dadoo dhan bay mataqaanaa wada haysataa waxaase meeshii taala cumarow maanta in dadka macaaridka ee reer Djibouti ee macaaridka dhabtaa ee doonaya danta dadka eenan rabin uun in mataqaanaa kursiga Ismaaciil Cumar had ku fadhiisatid in ay maanta isku yimaadaan oo dadka reer Djibouti u soo bandhigaan siyaasad u cuntanta oo dhibaatadan maanta ay ku jiraan ka saarta idinku hadda ka urur ahaan ma jiraan ururo kale oo Djibouti oo mucaarad ah oo sidii noo kasoo kala ah oo aad xiriir la samaysan ma jira ama ma samaysan yihiinba way jiraan ururo معاركي أنا قلت هورت متخنا خاصة waxa aan ururka mucaaridka ee la xidhiidhnay waa ururka mataqaanaa maxaan ku dhahdaa waa jabhad baa lagu sheegaa ma garanaysaa fruitka ayaan mataqaanaa maxaan ku dhahdaa xidhiidh mataqaanaa aad u fiican iminka mataqaanaa aan la leenahay
oon wada sheekaysanaa oon xaaladda jabuuti ka wada sheekaysanaa kama se dhigna in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa deed albaab la xidhaya ma garanaysaa laakiinse waxa qura een annagu aan ku xidhaynaayo waxayaan waa in la yidhaahdo waddankani dadka reer jabuuti oo dhan carab ha ahaado cafar ha ahaado soomaali caynkuu doona ha ahaado xabashi ha ahaado talyaani ha ahaado greeg ha wuxuu doona ahaadee waa loo siman yahay nin kastina wuxuu xaq iyo xaqu ku leeyahay waa inuu ka helo ururka macaaridkee taasi soo saaree qoraal ku soo saaraay berritoola waan la fadhiisanaynaa waan la sheekaysanaynaa hadda ururo intee lagoo macaarada ka jira jabuuti oo ka horjeeda maamulka ismaaciil cumar geele horta magaalada jabuuti haddaad sheegto wax urur mataqaanaa model oo dee mataqaanaa la baabiyey ma garanaysaa oo dee ururkii sheekhyada la odhan jiray ayaa jira laakiinse haddaad aragto imika laba qof mataqaanaa maxaa odhadaa sheekh cabdiraxmaan good sheegayey iyo mataqaanaa inaan mataqaanaa khadar waa labadooda waxaa imika jooga ma garanaysaa iyo ururka mataqaanaa gudaha jooga iyo ururka maaragtay ARD la yidhaahdo waa labada qura dibaddana mataqaanaa ururo kale ma garanaysaa ayaa jira ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa deed emerdeyga ma garanaysaa fruidka iyo dee mataqaanaa imika annagoo ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa adar si wanaagsan haddaba waa maxay sababta ururadaasi ay iyadoo dhibaatadaasi la arkayo waxaasi ay jiraan waa maxay sababta ururadaasi intay midoobeen ay shacabka reer jabuuti siyaasad hogaamineed ugu soo bandhigi layihiin waa su-aal fiican waxayaan horta mataqaanaa ururadu si ay ururo macaarida u noqdaan oo ay dadku u bislaadaan oo ay dadku siyaasadda mataqaanaa deed u bartaan waa in waddanka mataqaanaa dimuqraadiyada ka jirto waddankii haddii aynan dimuqraadiyada ka jirin dee ma uu ogola mana nasiib uma siinayo dadka sidii ay mataqaanaa siyaasadda u baran lahaayeen siday mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dadkooda ugu adeegi lahaayeen siday dadkooda wax ugu qaban lahayd ma ogola ururada macaaridkana runtana marka la isku sheego dee waa ururo macaarida oo marka aad u fiirsato wax mataqaanaa programma oo dadka ay u hayaan ooy leeyihiin war waxaasaan annagu idiin soo bandhigaynaa oo sidaasaan uga duwannahay ismaaciil cumar geelle oo sidaasaan waddanka ku dhaqaynaa weli taasi may samayn kolkaa in la isku yimaado oo inta ururee macaarida kii oonan lahayn mid baa mataqaanaa waddaniya mid baanan waddani ahayn mid baa meesha u dhashay mid baanan u dhalanin la yidhaahdo waar ninkii reer jabuutiye ciduu doona ahaado ee doonaya inuu siyaasadda ka qayb qaato inuu waddankan ma garanaysaa dhibaatada ka saaro miiska waad soo fadhiisan kartaa oo waad ka hadli kartaa haddii ay dhici weyday oo ururadii kale ilaa hadda ay soo bandhigi waayeen idinku maxaad u soo bandhigi weydeen oad ula xidhi weydeen xusbiyada kale ama ururada kale ee mucaarida ee raba in jabuuti wax laga bedelo mise wax kalaa ayaa jira waa horta program waa samaysan ku siyaasadeed ku dhaqaaleed ku bulshadeed iyo ku amnigaba ku salaysan ma garanaysa marka maanta waxaan ognahay dhulkeennii amaanadu aad bay u liidataa kaasi waan samaynay waan nidaaminay waanan kuwa aan kala sheekaysani doono ururada macaaridka imika ahaan qolada mataqaanaa ururkan ku sheegay fruidka dee sheekooyin iyo warar ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa ayaan mataqaanaa isweydaarsanaa waxa aanan rabnaa eenan ka codsanaynaa haddii mataqaanaa maanta waan jeclaa inay galbeed mataqaanaa TV dhegaysanayaan
war haddii aan doonayno waddanka Jabuuti inuu waddan xaq iyo xaquuq lagu xakumo uu noqdo haynu isku nimaado inkastoo iminka dee covid-19 mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dhaqdhaqaaqiide haynu ku talagalno in shir ballaaran ururada macaaridka oo dhani iskugu yimaadaan dhibaatada meesha ku jirta lagu falanqeeyo lagu maaragtay lagaga sheekaysto oo xalkii lagu mataqaanaa heli lahaana dee mataqaanaa halkaasi laga soo saaro oo programkii dadka mataqaanaa reer Jabuuti aynu u bandhigno oo han idhaahno haddii Ismaaciil Cumar meesha aan ka qaadno ma ahun isagaan ka qaadaynaa annaga kursiga fadhiisanayna wakaasi waxa annagu aan rabno inaan ku dhaqno waddankaasi dhibaatadiina mataqaanaa shaqaale sidaan mataqaanaa xal uga helayno iskoolada sidaan u hagaajinayno caafimaadka si aan dawo iyo mataqaanaa dhakhtarra ugu helayno waxaasoo dhan waa inaan dadka u bandhigno dad badan baa waxay leeyihiin Ismaaciil mar hore uu ka tegi lahaa meesha oo laga qaadi lahaa laakiin waxa la leeyahay ciddii ka qaadi lahayd meesha ee shacabka u soo bandhigi lahayd siyaasad hufan iyo ururo siyaasadeed oo matama mucaarida oo wax doonaya oo midaysan baan jirin baa la leeyahay marka taasi miyayna sabab u ahayn inuu Ismaaciil markaa kursiga ku sii dheeraysto muddo horta taas maaha ee si xoog buu ku haystaa maanta magaaladii Jabuuti askar baa lagu daadiyey oo dadkii mataqaanaa banaanbixii iyo wixii ay samaynayeen dee afkaa lagaga joogaa kolkaa ma aha uun ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa macaarid la-aan iyo xoog ayuu ku haystaa Ismaaciil Cumar waddanka waase run haddii maanta waan ognahay dadkii mataqaanaa inay bislaadeen 5 sannadood 10 sannadood ka horteed dee dadku sidii dharaartii dhaweyd yarkii markii la xidhay ay u soo bannaan baxeen uma soo bannaan baxeen kolkaasaynan cidna kale lahayn belbelaa laga soo baxay arxibaa laga soo baxay kaartaysang baa laga soo baxay meel kaste ayay dadkii ka soo baxeen berigii USN ay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa looltanka dooradeed ay ka qayb qaadatay dadku si laxal ayay ugu codeeyeen waana la maroorsadayoo waa la boobay kolkaa maanta waxeeyaan in la isku yimaado oo horta waana runoo docdocayskan iyo ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa ururadan kala daadsanaa dee faa'iido dadkii uma laha isaguna dee wuxuu ka dhiganayaa haladeeg oo dee maxaaba meesha macid baaba jirta bay iga qaadi karta waa idinka arkaya way is wada haystaan ma garanaysaa meel alle meelay wada joogaan ma jirto kolkaasi in la isku yimaado in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa program la samaysto oo gudi iyo dibadba labadaba laga shaqeeyo ma ahun dibad gudi iyo dibadba ha labadaba laga shaqeeyo maanta dadkiina diyaar bay u yihiin taas inay ka qayb qaataan soo maha ha inay ka qayb qaataan si wanaagsan bal waxaad nooga warantaa dad badan baa dadku waxay dhahdaan xasuuqyo fara badan oo isdaba joogaa ka dhacay Djibouti arxiba iyo buldhuqa iyo cafe de Paris iyo balse ay u dhaceen bal dadka reer Djibouti aan ahayn ee wali maqle un waxaasi bal saad u sheegi kartaa ha horta waxaasi wuxuu bilaabay markii mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dowladnimada la qabsaday kolkaasi waxaa jiray urur mataqaanaa dhalinyar cafara ma garanaysaa oo NPL-ta la odhanayay oo markaa siyaasad ahaan dee dhaqdhaqaaq ma garanaysaa siyaasadeed keenay dee waa la xidhxidhay qaar badan jigdil baa lagu sameeyey halkaasaa mataqaanaa ururkaasi lagu baabiyey waad og tahay xornimada Djibouti dee dad badan oo reer Djibouti oo cid kastaba leh ayaa qayb qaatay oo qaarkood dee
ururkii FLCS ma garanaysaa maxaan dhahdaa jabhaddii ma garanaysaa xoreynta ma garanaysaa Djibouti ay ku jireen daraartii xornimada la qaatay ayaa la kala saaro qaarna ay noqdeen reer Djibouti qaarna ay noqdeen kuwa dibadda ka yimid marka dadka dibadda ka yimid dadkii aan ahayn maxaan ku waa dadkii kuwaas waa gadabursi ayay u dhinaayeen kolkaasi taasina ujeeddadeedu waxay ahayd in dadka mataqaanaa reer Djibouti la kala saaro oo la yidhaahdo qaarna waa waddani qaarna waddanka ma aha taas uun laguma joojinina waxaa la sameeyey in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dad shicib reer Djiboutiya had iyo jeer mataqaanaa dhibaatooyin badan tu dhaqaale ha ahaato tu siyaasadeed ha ahaato amba haba la xidhaba dee taasi ay ku bilaabantay daraartii xornimada la qaatay anigu waxaan idhahdaa xornimaduna qaar bay u dhalatay qaarna dhibaatadii baa u bilaabmay kolkaa arrintan kaafeed baari dee waa wax soo socday oo dhibaato soo socotay shaqooyin dadka laga eriyo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa xitaa baayac mushtar dad samaynaya oo loo diido ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa baayac mushtarka waxay ku samaysan yihiin dhibaato aad u ballaaran ayaa ku dhacday ma garanaysaa dad ma garanaysaa reer Djibouti afeerka kaafeed baarina waxay noqotay dee tii ugu weyneyd ee dad badan ilaa 200 oo qof dad ka badan lagu qabtay lagu xiray jirdil aad u foolxuna lagu sameeyey oo dhalinyaro aan garanayo ma garanaysaa anigoo berigiiteed aan ururka aan maaragtay maxaa jariidadaan qorayna aan kuba qorayba macawis mooyaane wax kale unan gashin karayn taasuu nima jirine waxaa jirtay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa in dad mataqaanaa baayac mushtarkoodii la bililiqaysto in dad waraaqihiintoo laga qaado ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa xuduudka mataqaanaa lagu daadiyo dee waxyaabo badan oo caynkaas ayaa mataqaanaa jirta marka waxaan markaa ma dowladdaa samaynaysay mise cid kalaa samaynaysay markaas waa dowladda weeyaan cid kale maaha waa dowladda ayaa waxaasi adigii soo sheegay arxi baa jirtay 9 iyo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa afartii lagu laayay ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa dad badan oo shiciba oo ilaa imika aynan aqoonsanayn dowladdu inay dad laysay ma garanaysaa oo jidhaahdo ana layga raali ahaado ma garanaysaa maxaan ku ta ugu dambaysay dee waxay ahayd buldhuqo oo dad shiciba oo soo banaanbaxay ma garanaysaa oo dee dhibaatadu un ma garanaysaa ka banaanbaxayay in rasaas lagu qaybo oo lagu laayo kolkaa dadkii mataqaana dadkii dhibaatadii waa wada taabatay tii maaha uun ma garanaysaa in uun ku ekayd maanta dadoo dhan ayay wada taabatay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo dee nabadgelyadoodii baa maanta ku jirta ayaa dhibaato ku jirta haddaba tii oo ay sidaa tahay oo dadkii maxaan ku rahdaa shacabku ay yihiin dad walaalaa laakiin maamulku uu ka xumaaday oo dowladda meesha jirta ay tahay dowlad kaliya talisa dadkuna maanta ay u midaysan yihiin inay mataqaanaa dhibtana wada arkeen dhibtana ay wada taabatay oo qof kasta ay gurigiisa ugu gashay oo maanta cid gaara oo reer Djibouti aan maxaan ku rahdaa ayna gaar u haysanin laakiin laysa soo wada gaadhay maxaad is leedahay markaa maanta way habboon tahay in la sameeyo sidaan maaragtay cumaro horeba u soo idhi in la isku yimaado maanta daraar dhawidi waxay inamaan sheekaysanayn sheekha cabdiraxmaan good maanta dadka reer Djibouti oo dhan cidoo doona u hado waxay u arkaan qof dantooda ka hadlay qolana ma laha jinsiyadna ma laha diinna ma laha nin kastaba wuxuu arkayaa qof xaqa oo dantooda u hadlaya
kolkaa waa inay noqdaan ururada maaragtay macaaridku kuwa dadoo dhan yidhaahda waar dhibaatooyinkan siyaasadeed dhaqaaleed bulshadeed nabadgelyada waxaasoo dhan ayaan iniga gargaaraynaa oon xal iniga helaynaa in la isku yimaado waa in magaalada intoo la tago balbale la tago arxiban la tago kaartiaan la tago kaartiisaan dadkii la wacdi geliyo waana runoo dee meeshii nabadgelya ma jirto taqaanaa maxaan dhahdaa ismaaciil cumar ha uu xidhi dadka laakiinse taasina waa in loogu talagalo lama bedeli karo wax haddii la leeyahay war mataqaanaa maxaan ku dhahdaa inuu ismaaciil naga tagaan doonaynaa waxbana qabsan mayno ismaaciil cumar tegi waayo haddii la iska kaxayni waayo dadkuna mataqaanaa way diyaar laakiinse dadku waxay u baahan yihiin wax haga dadku iskama dhaqaaqo uun ma garanaysaa oo nidaam ma yeelanayso dadka qof dad u jiheeya oo dariiqa toosan iyo nidaamka tusa ayay u baahan yihiin hadda sheekhaad sheegtay muxuu ahaaye ee gudaha ka hadla ma keligii unbuu hadlaa mise xusbi waa ayuu leeyahay oo mataqaanaa xus madax kayaa jira maanta sidaan anigu dee warku aan ku hayo laga yaabo inuu maanta keligii uu yahay ma garanaysaa sheekhu uu isaguun is-mas-uuliyad saaray waa nin sheekha weeyaan waa nin wadaada waa nin diiniya dhibaatada meesha taallo u arkayo unbuu ka dhibibiyey isagunbaa markaa mas-uuliyadda isa saaray oo yidhi waar ka aamusi maayo dhibaatada meesha jirta wixii doonaana haygu gaadhin kulley waxay noqonaysaa un shaksi hadlayo muu noqonayaa mar haddii una urur ku hadlaynin magaciisa ku hadlaynin oo cid ka dambaysaana jirin shacabku way taageersan yihin baa tiri laakiin dee shacabku keli ahaan bay u taageersan yihin laakiin dee mar haddii institution uu maamulo ama dee ka dambeeya ama uu ka mid yahay oo magaciisa ku hadlaya una jirin dee shaksi haddun buu noqonayaa kulley wax bedel saas ma samayn karo laakiin waxaa la rabaa dadka reer Djibouti ee maxaan ku dhahdaa mucaaradka inta badan ka dooda inay intay saas sheegtay sabaabulaan isku yimaadaan wax la soo meesha meel dhigtaan kabacdina ay la tagaan dalkii ama hal la xidho markaasi dayna dhibaatada u bareeraan laakiin hadday qorbahan ka hadlaan wax isbedel ma keenaysaa malinaysa aniga la tahay waa runta saad u sheegtay ma garanaysaa haddii sheekhuna dee kartidu iyo dee raganimadu doona ha yeesho hadduu shaksi noqdo dee shaksi waa la aamusin karaa oo dee mataqaanaa imikaba dhibaatay ku hayaanoo kolba qaada kolba xidha kolba mataqaanaa meel geeya oo dee dhibaato badan ayaa mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dultaan haddiise uu mataqaanaa sidaa aad u sheegtay dee urur iyo dee dad mataqaanaa nidaamsani uu jiri lahaa dee haddii mataqaanaa xitaa dhibaato ku timaado sheekha dee dad u halgama dad u dadaala dad daafaca haddii kalese mataqaanaa dee ka daba qaado ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa oo dee dadaal halganka uu ku jiro ka daba qaada waa in la helo kolkaa waata aan leeyahay mataqaanaa waa in la isku yimaado waxa ugu horeeya wixii ahaan isku nimaadno oo haynu wada sheekaysanno markaasi marka aynu meel wax wada dhiganno ayaynu mataqaanaa waxa aynu meel wada dhigannay ayaynu ku dhaqaaqa Djibouti wada tagnaa markii la xidhay yarkii bayloodka markii la xidhay shacabka reer Djibouti ku nool qurbaha iyo guduhuba way kaceen gudaha mudaharaadyo weyn baa ka dhacay waxaan ku dhahaa qurbahana saasoo kale mudaharaadyo ka dhacay meelo badan baa laga ayaa loo soo banaan baxay arrintaa lagaga dhiidiyey oo adduunka la tusay dhibta uu Ismaaciil ku haya shacabka reer Djibouti wixii banaanbax ahaa iyo wixii mataqaanaa hadal ahaa iyo wixii lagu effortkii la gashay mudaharaadyada dhacayay
ilaa hadda dee wax iska soo baxo oo saa u weyni ma jiro ninkiina weli waa xidhan yahay saan u malaynayo dadkiina de inkastoo dadku ay sii baraarugeen oo baraarug fiican ay heleen laakiin haddana dee hogaamiye ama qurba jooga ama guda jooga oo ay ku daba faylaan oo hawshaasi dee ay meel usii socdo oo hawsha weli ay socotaa ma jirto nin walba maalin buu soo baxay dibna waa la fadhiistay waxaad aragtaa had iyo jeer sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka hadlaya Ottawa rag kale oo Belgium ka hadla waan dhageystay haddana weli ma jirto dee wax socda oo mataqaanaa san anigu ogahay intaan arkayay meel yaala oo ama mucaarado dee ismidaysan oo saas sheegtay weli aan dee weli ismidaan arkinba weli maydaan sheekaysan bada sheekooyin oo dee gaargaaramaya laakiin wax guud weli maydaan wada yeelan marka miya noqonayn un dee wixii markay waxdi ku dhacaan un baad baraarugtaan inta kalena waad iska nasataan waa su-aalo fiican martaanaa cumarow dadkii saa aad u sheegtay markii yarkii la xidhay markay arkeen videogii laga soo duubay dhibaatada uu mataqaanaa haysatay yarkaasi waa kuwii dibadda u soo baxay oo dee waxayna dee taasi uni waxay ahayd waxay yidhahdaan mataqaanaa dhambiishii ma garanaysaa dee dabka qarxisay ha laakiinse waxbaa hoosta dee guux baa socdo dadku dhibaato ay dee dhibaato mataqaanaa haysatay ayaa keentay markii yarkaa dhibaatadiisii ay arkeen inay dee dibadda u soo baxaan sidaan si sheegaya cumaroo waxeeyaan haddii dadku cid hagta oo hore soo socota maaragtay hor socota oo dariiqii mataqaanaa toosnaay sidii wax loo doonayay sidii la isku nidaaminayay u sheegi weyda dee markay markaasaa u qarxday dee weliba caskari ka hor timaado ee la xidhxidho ee mataqaanaa maxaan ku dhahdaa jirdil lagu sameeyo dee nin kastiba baqashunbaa dib u gali oo xaafadiisunbu dib ugu noqon kolkaasi marka aad haddaba eegto waa taasi waa jabuuti iyo dadkii laakiinse waxaad carabka ku dhufatay markii aan aragnay videogaasi ma garanaysaa yarkaasi dhibaatada haysata dee Ottawa laga bannaan baxay oo Belgium baa laga bannaan baxay oo dee dhowr meelood oo dee qurbaha dibadda ayaa laga bannaan baxay maxaa haddaba ay u yeelan weyday wax la daba socdo ma garanaysaa oo la yidhaahdo war ilaa yarkaasi xafiiska laga soo sii daynayo waa in aynu mataqaanaa pressurekaasi aynu ku hayno oo aynu dadaalkaasi wadno oo aynu mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dee halkaan ka sii wadno waxayna taasi dee ka imanaysaa waa ururo macaarida oo dhan meel wada joogin oo kala daadsan oo nin kastaba meel yar uun ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa miskiidkiisa uu ka addimayo taasay dhibaataduna waddankuna tahay maanta si fiican idinku ka urur ahaan haddaad Djibouti ma ka degaysaan jigjiga ma ka degaysaan hargeysa ma ka degaysaan muqdisho ma ka degaysaan idinka oo arrimaha maxaan ku dhahaa aad u xilsaarantihiin aad isku xilsaarteen ma kala hadlasaan maamulada markaa dhulkaa ka jira horta intaan mataqaanaa maamulada aynu kala waxaan anagu jeclaan lahayn mataqaanaa in aanu ururada macaaridka ururkan markaan mataqaanaa u saldhig maanta ururkan adal sidaad u sheegtay mataqaanaa wuxuu ka unkamay mataqaanaa magaalada Ottawa laakiinse waxaad moodaa in uu noqday dee dab mar qura ma garanaysaa dee u dhaqaaqay oo dee mataqaanaa magaaladan aad joogta Edmonton waa Calgary Toronto maaragtay Brussels London faransiiska meel aanan la nagala soo hadalin maanta ma jirto kolkaa waa baahi iyaa meeshii jirto dadkii arkay leeyihiin war sidan dee kuma mataqaanaa noolaani karo oo dee waa baaba-eena weeyaan kolkaa sidan si ka roon baa jirta sidii ka roonaydna waxay u arkayaan bay aniga ila tahay ururkan ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa kolkaa inta aananu ka dhaadhicinaynan dee la fadhiisanin in aan horta mataqaanaa ururadii macaaridkii
la is arko oo la wada sheekaysto meel wax la wada dhigto oo markaasi marka dambe ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa dee wixii markaa qaraar la gaadho lagu dhaqaaqo si fiican haddaan usoo noqono ururka weli shirweyne iyo ururka weli maydaan qaban laakiin waad ku dhawaaqdeen oo covid-19 awgeed baad number yar un baad ku dhawaaqdeen laakiin weli shirkii maydaan qaban shirka si goor baad qabanaysaan markaas horta waxaan u maaragtay dhammaynay anagu guddi kusii meel gaadhi ayaan mataqaanaa maxaan ku dhahdaa naho mandate-ka lana sii ahaa inaan mataqaanaa nidaamkii ururku lahaa aan dhigno aan samayno xeerarkii baan u samaynay structurekii baan u samaynay shalay mataqaanaa code of conductkii baan samaynay waxa mataqaanaa nidaamkaasoo dhan markaan dhammaynaa waxa aan rabnaa in shir ballaadhan aan qabanno si la iskugu yimaado shirkaakaasi guddi jadiidana lagu doorto wixii aan soo diyaarinayna lagu ansixiyo la yidhaahdo ama wixii dee lagu biirin lahaa lagu biiriyo wixii mataqaanaa laga saari lahaa laga saaro wixii qalad ahaa laga ansaxo marka document ma garanaysaa dee qaraar finala laga soo saaro oo kaasi markaa ururkaasi dee ku hirgalo kolkaa weli mataqaanaa taariikh aanu haynayn ma jirto oo dee weli mataqaanaa covid-19 kan iyo dee goor la furi doono dhulka goor la isku dhoofi doono war lama hayo ise marka mataqaanaa aynu dee dhulkan yara hagaago ayaan taariikh qabani doona hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah waa si fiican halkan way naga daawanaysaan waa galbeed t v xaruntiisa magaalada edmonton oo dalka canada weli waxaan ku jirnaa waraysigii aan la yeelanay guddoomiyaha ururka adal oo laga dhawaaqay dalka canada gaar ahaan magaalada ottawa ismaaciil yuusuf ismaaciil waxaad sheegtay inaad rabtaan inaad la fadhiistaan mucaarada la fadhiistaan haddii mucaarid aad weydaan aad la fadhiisataan maxaa idin qorshaysay markaas horta sidaan kugu sheegay cumarow mucaaridan la sheekaysanay way jiraan oo mataqaanaa sheeko ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa horta waxa ahaato iyo qolooyin mataqaanaa faransiiska jooga ma garanaysaan xidhiir wadaleen hoon ka wada sheekaysano arrinta joogti kolkaa baaqa waan u ballaarinaynaa kuwa kale ee macaaridka jabuuti inay ka soo qayb qaataan waxaan anagu aan aaminsannahay in aanan cidna laga tegin dadka reer jabuuti cidduu doonaba ha ahaado nin kale mataqaanaa war waddankan baan ka qabaa waa dadkaygii waxbaan doonayaa inaan u qabto oon halgankaa ka soo qayb qaato in loogu furo albaabka siduu uga soo qayb qaato kolkaa cid kasta waanu furaynaa ese wax aan leenahay haddii ay imani weydo inta yadaa iskugu timaada ayuunbaa qaraar gaadhi dadkana qaraarka aan gaadhnay unbaan ugu baaqaynaa si wanaagsan asa urur ahaan idinku waxaad ka kooban tihiin baa tiri waxay kasoo kala jeedaan waqooyiga soomaaliya jabuuti iyo kilalka soomaalida etoobiya marka laga hadlayo arrimaha jabuuti ma cid gaar aad u xil saarteen markaasi arrimaha jabuuti marka laga hadlayo kilalka soomaalida etoobiya ma cid gaar ah u xil saaran marka laga hadlayo arrimaha waqooyiga ama soomaaliya ma cid gaar ah u xil saaran mise guud ahaan waxaad tihiin ambareelo guud oo siyaasadda ku midooba oo ka wada shaqaynaya maxaan ku dhahdaa kolba meeshii loo baahdo waa su-aal fiican garanaysaa cumarow iminka ahaan ururku waa dallad weeyaan oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dee dhibaatada ka jirta wadannadaasi jabuuti waqooyiga mataqaanaa soomaaliya iyo kelinka shanaad waan ka wada hadlaynaa oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dhibaatooyinka ka jira kamase dhigna in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dee marka dambe dee ururo ay samaysmaan siyaasad ahaan ma garanaysaa dee jabuuti ka hadli doona siyaasad ahaan waqooyiga mataqaanaa soomaaliya ka hadli doona siyaasad ahaan kelinka shanaad ma garanaysaa ka hadli doona
way jirayaan una jiraan iminka waxaa jirta urur mataqaanaa GDP ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa la yidhaahdo oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa ka sharciyeysmay waddanka Ethiopia garanaysaa oo dadkeedu mataqaanaa kasoo jeedaan kilinka shanaad kolkaa way jiri doonaan iminka ahaanse waxayaan waa urur mataqaanaa dalada oo saddexdaa mataqaanaa maxaan ku dhahdaa waddanba siyaasadooda dhaqaalahooda nabadgelyadooda bulshadooda ka sheekaynaya gabagabadii maxaad odhan lahayd ugu baaqi lahayd shacabka ku dhagaysanaya ee maxaan ku dhahdaa adal iyo shacabka reer Djibouti shacabka maxaan ku dhahdaa Soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd horta shicib oo dhanba siduu dhan yahay waa inuu dulliga diido qofka bini aadankii waxaa loo abuuray inuu xor noqdo inuu madax bannaanaado inuu mataqaanaa wixii xaq iyo xaquuq u leeyahay inuu helo kolkaa kuwa Djibouti kuwa mataqaanaa kilinka shanaad iyo kuwa waqooyi mataqaanaa Soomaaliya waxaan leeyahay waar dulliga diida waar sare joogsada oo waxaad tidhaahdaan xaqayaga iyo xaquuqdayada ayaan mataqaanaa maxaan ku dhahdaa sida qura eed ku gaari kartaana waxayaan in ninkan meesha jooga kuwan meesha joogay haystaay waxa ay meesha ku fadhiyayaan ay maaragtay ku deed amri dharar ka dhiganayaan waa ducaynta iyo qaybista dadka ay kala qaybinayaan war qaybistaana diida maanta maaragtay maxaan ku dhahdaa dhibaatooyinku markay jiraan nin quro uu kuma eka qolo uu kuma eka nin kastaba dhibaatadu way soo gaadhi dharan bay soo gaadhi xilligay doontaa noqotay gacanta isqabsada isku taga xaqiina gabigiinu wada doonta idinkoo mataqaanaa isku duuba ninba halkan wuxuu nagu soo weydiiyey su-aal facebooka wuxuu yidhi waxaad ii weydiisaa su-aal furuud waa dhaqdhaqaaq hubaysan miyaad ku raacsan tihiin xallin military dhibaatada Djibouti lagu sameeyo waa su-aal aad u fiican waxayaan horta mataqaanaa waa furuud siduu sheegay waa dad hubaysan waa ururba hubaysan laakiinse annagu waxayaan waxayagu waa siyaasad weeyaan waa siyaasad weeyaan kolkaa annagu marka aan wada sheekaysanayno waxa aan kala sheekaysanaynaa waxayaan waa siyaasad ahaan waddankii sidee baynu uga hortagnaa dowladdan meesha ka jirta oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa iyo dhibaatada meesha ka jirta ma su-aal baad weydiinaysay maxaad rabtay inaad ka hadasho magacaaga iyo meesha uga shibsan noo sheeg waa magaca joogaa waxaan ahay nin guursiyanahay sug والله مالك كسعة الو ها كسعة والله سيفي عنها كسعة والله الكسعة ما قاعد مشى شفتان كل كسعة ما قاعد واحمد حسن بلا والله احمد حسن بلا نباز جبت بقى صار له هي واحد صار له فرنسيس كان ريجي متبع معي اوكي كسعة ما حد دولة سنة قدوميها ودي سمركا قدوميها وحن dhinac kasta ku absatay si aan looga bixi lahaa maruuda tashanahaabaan anigu waa dareemaya haye markaas su'aashaan weydiinay waxa weeyaan hadduu abaabul xagga yurubta amba faransiiska faarin dhulka inaan la kulmo aan ku xidhiidhi karayo
iyo wixii kale isweydaarsi iyo wixii ayaan dareemay oo ku maqlayaa gudoomiyuhu ku soo gudoomiye waxaan u malayn intii hore maan maqlaynin waxa uu yidhi dad aan kala xidhiidhno arrimahaasi hadda ma jiraan buuri oo meelahan kala xidhiidhi karno oo dhaqdhaqaaqyadaasi socda ururka hadal miya ha صح kolkaasi ma wuxuu joogaa ma wuxuu gudid faransiisku joogaa صح صح horta mataqaanaa wax nidaamsan oo weli dhignay waa dad qof ahaan ama faransiiska ha ahaato ama ingiriiska ha ahaato belgic ha ahaato qof ahaan laakiinse weli dad mataqaanaa maxaan ku dhahdaa aynu urur ahaan aanu caga dhignay weli mataqaanaa ma jirto se haddii aad doonayso mataqaanaa inaad la soo xidhiidho ururka maaragtay maxaan ku dhahdaa guddida ottawa la soo xidhiidho waad maqasaan malayaa gudoomiye waan maqlayaa marka lambar amba whatsapp wax waxaan kula xidhiidhi karo guddidaas haddii uu sax tv-ga u reebi karaya maase markii ugu soo waan kusoo gudbin doonaa anaa kusoo gudbin doonaa meesha lagaa xidhay haddii la yidhahdo waayahay waad mahadsantihiin waad mahadsan tahay waxaan ii rajaynayaa insha allah waa lagu hambalyeelayaa initiative-kana qaadateen way fiican tahay wallaahi aad bay dhib u ahayd oo aniga ii dhibaysa horta personalmo inaa dadkii gudaha joogay badanka saddexda maamul ay kala joogaan ayaa gidlowgaba lagu gumaysanayaa oo gumaysigay ku jiraan intii dibadda joogtay xorriyada haysatay baa waxa nasiib daro ahayd inay intaas yahay wax alla wax abaabula ka arki waayido waan hadday midyar dhaqaaqana markaaba intaana nala soo wada xidhiidhnaha kala baaba'ayso guuldarrooyin badan oo awdal state iyo howlaha kaasoo beri hore intaanan xagga niman baan maqli jiro markiiba baaba'ay marka waxaan ku rajaynayaa waa horta waan hambalyeynaya waxaan rajaynayaa inay mina dhaliso insha allah aad baan ku salaamay insha allah aamiin waad mahadsan tahay وانا السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kaas waxaa dhageystay naga soo wacay dalka faransiiska alo السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته magacaaga yaa ka jirta walaal waxaan rabay wax magacayga waxaa la yidhaahaa axmed ismaan baa la yidhaahaa ku soco axmed cismaan baa la yidhahaa magaalada ottawa ayaan ka soo hadlayaa ani maqlaa waa lagu maqlayaa maxaa doonaysa inaad guddoomiyaha weydiiso guddoomiyaha waxaan rabay inaan weydiiyo waxaan rabay inaadirina weydiiyo wuxuu guddoomiyuhu sheegay inay reer madaragtay hay wala xidhiidheen xisbiyo siyaasadeedoo mucaaridka ka tirsan soo maaha ku soco marka waxa weeyaan xisbigan waxaan rabaa inaan weydiiyo furiidka waa dhaqdhaqaaq military weeyaan ininku ma waxaad ku raacsan tihiin furiidka ood ku heshiiseen inaad kala qayb gashaan dhaqdhaqaaqa military oo dhibka jabuuti taalla lagu xalliyo qori mise waxaad tihiin urur madaragtay dhinaca no violenska ah si nabadan raba inay isbeddel ku keenaan madaragtay su-aal weeyaan ta labaadee raacsan lahaa waxa weeyaan dad raalli ka tihiin haddii xisbiyada jabuuti ee mucaaridku program mid kasta uu haystaa program oo mid program kale ka fiican ma jiro laakiin waxa weeyaan sidee madaragtay la iskugu raaci lahaa reer jabuuti oo iswala socda oo iswala ogol waayo haddii nin kastaba uu samaysto reer kastaba xisbi uu samaysto halkii laga guuraya guul noqonaya miyayna ka wacnayn in la isdhex galo oo nin kastaba dadka kale uu ka dhaadhiciyo uu soo jiito uu programkiisa soo raaciyo si ay u soo raacaan oo programkiisa iska dhex arkaan isaga miyayna ka fiicnayn intuu reer kastaba gooni isku xigi lahaa gooni program u samaysan lahaa
waa labada su'aalood baa weydiiyey ka raali aan haddaan ugu dheeraado waa ku maqlayaa guddoomiye ku saab horta waa su'aalo aad u fiican ta hore marka la leeyahay ururka free mataqaanaa maxaan ku dhahdaa deed isagu siduu sheegay ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa jabhada ma waxa aad la ogoshiin in aad mataqaanaa waddankii aad dagaal isbeddelka ku keentaan kolkaa sidaan markii horeba ugu jawaabay waxaan u malaynayaa nin dhegaysto oo mataqaanaa facebook waa su-aal soo gudbiyey inaan nidhi annagu horta mataqaanaa urur rumaysan ma nihin si mataqaanaa nabadgelyo ana waxaan mataqaanaa doonanaynaa dee wixii xaqayaga ahaa magaranaysaa kolkaasi haddiise dee mataqaanaa ururada marka lala hadlayo deed ururka furiidna siyaasadna uu ka hadlaa qori uun mataqaanaa dee ma ahee siyaasadna ma garanaysaa kolkaa annaguna mataqaanaa maxaan odhahdaa inaan odhahdayadii sheegano nidhaahno war sidaasaan u arkaynaa mataqaanaa isbeddelku siduu imanayo inaan kala sheekaysano unti mataqaanaa maxaan odhahdaa fikraddayada u gudbino ise waa halkan waxaan doonaya inaan ka caddeeyo in annagu aananu ahayn waddan urur deed hub qaadanaya ma garanaysaa oo dagaal isbeddelkii meeshii ku keenay su-aasha labaad ee ahayd in qabiil kastiba ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa uu urur samaysto waxaan anigu odhan lahaa ururada waddanka ha la eego ururada waddanku urur qarani ma jiro ururadu waa qabiil mar qabiilba maahee waa jilib weeyaan kolkaa had iyo jeer aniga waxa mataqaanaa aan ka cadhoodaa ma garanaysaa oo itaabtaa marka mataqaanaa dad kale la arko ee marka qabiil laga arko ee qaarkoodna qaran loo arko tiyoo la og yahay inay qabiil yihiin taasi aniga waxay tusaysaa in la odhanayo waa aniga qabiilkaygu waa qaran adiguna qabiil baa tahay kolkaa waxaan leeyahay waar maanta sida aynu u kala joogno mana lihi mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dee waa waxaan ogol lahay ee waa sidii laynoo kala daadiyey ee dowladdii mataqaanaa dowladdan saddex iyo afartan sannadood haysatay ama xasan guulid ha loo naxariistay ama ismaaciil cumar docdocayntaa iyo qaybistaa ayna qaybiyeen ba halkayna keentay maanta haddaba wixii yaal in la yidhaahdo waar nin kastaba miiska ha soo fadhiisto wuxuu doonaha haystee haddii aynu ka wada hadlayno danta reer jabuuti anigu maanta waa nin gadabuursiyan ahay waa run laakiinse nin gadabuursiya wax gooniya uma rabo waxa aan rabaa ninka gadabuursigii haddii waddankaasi uu xaq iyo xaqu ku dhaqmo inuu dantiisa ka helayo uu nin kastiba cidduu doona ahaado hadduu reer jabuuti u dhashay inuu mataqaanaa maxaan odhahdaa xaqiisa ka hadlo laakiinse haddii aniga lay odhanayo adigu qabiil baad tahay ma garanaysaa oo qabiilaad samaysay kaanan qabiilka hayni aniga halkan mataqaanaa hay soo hor fadhiisto hay sheego si fiican waa ka go-ay wiilkii ka go-aan marinayaa markaas waxaan sameynaynaa qofka raba inuu su-aal weydiiyo oraha usoo fadhiisto laynku waa u furan yahay haddii kale waan soo gabagabayn doonaa saa sheegtay ismaaciilo waxaad tidhi dadka qaar baa waxay u arkaan ururada ka jira jabuuti waa ururo qabiila ama qabiliya ama jiriba weeyaan laakiin looma arko kuwaasi looma arkaa tidhi mataqaanaaye qabiil looma arko waxaa loo arkaa inay qaran yihiin haddaba waa maxay sababta dadka kale loogu arkayo qabiil
kuwaasina lagu arkayo inay qaran yihiin horta dee waa dowladdii jirtay ee markii bilowday waxa ay mataqaanaa si ay dee dadkii u kala qaybiso waxay tidhi dowladdani السلام عليكم وعليكم السلام ساو ويرجر هيا كل اسمع dowladdii iyaa mataqaanaa dadkii marsay u kala docdocaysay tidhi war qaarna waa waddani qaarna waddanka ma aha adigoo xitaa ku dhashay ha nin waxaa mataqaanaa maxaan ku dhahdaa enana waddanka ku dhalan baa la odhanayaa waa waddani adigii ku dhashee ku barbaarayna waxaa lagu leeyahay ma tihid kolkaa taasi way dadkii bay ka dhaadhacday kolkaa taasaa keentay in la yidhaahdo war anigu waa urur baan samaysto waa qaran tiyoo la og yahay oo magaalada lagu odhanayo waa reer hebel dee jabuutiba ka tagoo soo qaad mataqaanaa somaliland maaragtay waqooyiga soomaaliya dee ururada macaaridkee la sheegaay waa urur macaaridaa lagu odhanayaa laakiinse marka dhabta la sheego waar kani waa reer hebel baa lagu odhanayaa kanna waa reer hebel kolkaa waxeeyaan ururka marka adigu marka oo anigu markaa waxaan u arkayaa marka la leeyahay adigu gadabursi baa too ururkaagu waa qabiil in la leeyahay adigu waddani ma tihid oo markaa urur ma samaysani kartid anigoo waddaniya urur ma samaysan kartid haddaad urur samaysatana legitim ma aha waa urur qabiiliya weeyaan taasina inta aan ka dagaalami karo waan ka dagaalami waxaad leedahay reer Djibouti waxay ku noqonayaan inay wixii reer Djibouti dantooda ka hadlaan oo ka fikiraan mustaqbalku siduu noqonayo dadka reer Djibouti ay noqonin in la yiraahdo reer hebel baa reer Djibouti reer hebelna Djibouti maaha qaybtana waa qayb kale oo dadka kala qaybiyo waxyaabaha gumeysigu waa dadka kaga tagay kamid tahay marka dadka reer Djibouti waa dad walaalo weeyaan shacabku waa walaalo laakiin dawladda meesha ka jirta waxay rabtaa waxay ku sii cimri dheeraysanaysaa doonaysaa marka waa inay dadka la kala qoloqoleeyo oo inba wax loo sheego taasi waa kulli taasi ku timday dhageysta khadka ku jira dhageysta maxaad rabtaa inaad weydiiso gudoomiyaha mar labaad ها ما والله إنك سؤال ما قبل واحد فكر بركو درسنا يا ذان أنت هذا الكيد ما كان سؤال لي أنت هم بجستي كسرعة إنك قدومي بركو كهذا لي جوتي وكلا كسرعة هذا أنا نقدر برسيو رجوتي هاي وحن ورت فكر كأكو درسنا وحنا جيبوتي ورونا ورت إنه قدومي ودي حسوسنا يمو يعني أنا جو سرعشنا دي أنا جو يروح عن كرامة يا كارتستان قلنا هنا أورو للسبعي أورو قدبورسية أو مدح كها مهدي إبراهيم جود وإنك كجرا أردي دبانو مدين marka waruntii ururada Djibouti jirana de waa MRD baan garanayna lagu sheegay afur labe waxa xaqeynayna waa taas oo sheegayna in hadii aadan roblalo naxariiso kiisa waxa loo dhanay daxgo إسماعيل جدي هذا الله نحرسه الكيس ده سبوه هاي سعد موسى لكن مدبان أنا كنت أرسلها دمك جيبوتي هان سد أي أنا هنو أعرفه استبدل ككذا عي عقل كلمة ما كي عقل لغاتي ما إلاسك عشان نضي يوحي كذا بيا استبدل ككذا عي ماجوريتي بوحدة أو أبسولية سيدنا طبعا كل نقطة وعدالات بيكون نقطة أنا ملهي لكن وفعل هري هلا ماجوريتي بوحدة وحا صح مركا ماجوريتي كان بوحدي إن حسب قرن أو مدحنمو نيكا حسب مدح كا أو إنه مدحويني حنطو يكو وحا فاقا رياليتيك أيام بقيسا ومع الديمقراطية دي ترتبط بالشدي ماجوريتيكي أيوة السنة حسب كاسي مركا عفرتي أو يكونا ترى أهم كحجة أو كحجة عيسى ترى أهم سأل الله عنه واركو إن يكون هاي هذه يجر حسب كسر جربا وخصنا هذا ومن عيسى ما تحكي يجي دون هذا إنه فيس بريزيدون أو ديار رئيس الوزراء بلا سكيسة إنه نعفر ساق حسته وخصبيه هي مركا إنك البرسيحان أو إنك بشدة مركا كوميونيتي كسدح هذا
inta la sheego inkastoo iminka sida ay maamulka loo qaybsanayo iyo dadka ka muuqda dowladda hay isaaqeeba Djibouti inay naga tiro badan yihiin la moodo marka la eego tirada dibitiyo tirada dadka dadka magaca ku leh aan hoos u sii socono inkastay taasi ayna sheegeen inay tiraahana dhaafeen laakiin maamulkii ka muuqashadiisii balaaskii saddexaad inay iyagu iminka ahaan naga qaateen marka anuu fikirkayga aan qabo iminka xisbiga IDD-da la eegay ee la qarameyn waayey sababna uu sheegay maamulku يعني قبيل مركل اللي قلت الماضي واقع عضدا قبيل بلو قلت الماضي وصادف تدي بلو قرمين ويحس بالجرو الليجيتيميتي اللي هو نقوي لكن وقت كان كان جربنا أنا وحي لما قطع قلت موفمون قرورنا يعني بوشيكا وابود يسمى سوق كان يا جيبوتي هان إن السماية وفي عن تاي لكن إن لا لدي جرايوس هيشيس لا السماية ان خوف كسو جيده ما جبتيga oo xisbi aan bahalaado la qoonsiiyay marka dawladda xaqaaga ka shaqeysha dawladda waa inaad fursantaas ahaan inta ku joogtidun xaqaaga inaad ku dawladda waxaan xaqaaga inka midkii kursi oranay Djibouti madaxweyne ka noqonay bulsho ahaan afarno ma ogolaan Ciisana ma ogolaan oo naga tira badan Djibouti marka balaaska saddexaad ee xaq u lahayn إيه كنا نهوس بس إذا دعينا الله ملا أنا أركينا بلا أسكينا لجتيمتي سان حتى ناوي الحين يو جودهام بدريج بتجيب ديمقراطية دنا يو حرية دنا يوضعنا يعني إننا كنا دكمت محي سان ولد كولد دوني الحين إننا كوسكدو من هرتو أبود ديني وحديني هرتو مجنة يو تدكو هاي أركان بين تعمل هاي سيلو أركو أو مركب الولي هشين كلا دينك ماذا dadka waxa soo galay sabab dadkeena ka fikirayaan inagoo gidigeen uga day kala baahsan ninka sababtiisa aan isku khabaynayo sida ahaan inaan waxba ahayn balaaska saddexaad soo bil kiray in loo arkaban anu malaqnaanka markaas anu waxa talada ku dirsan lahaa iminka Soomaaliland oo kala qasab ururadii xisbiyada ka jira waa la saddex xisbiyo waa isa marka halkaas inaan qasab xisbi oo minna uu samaysto oo xisbi gooni uu isku taago tiraahan iyo sheerkii politiga la shirgareeyay inay gooni xisbi aan isku taagi karaan madaxnimo ku doodi karaan waa wax xaq oo meesha yaalo macquula laakiin Djibouti hana markaan arkayo anana niideeyay sida hadana reality ka dhaqaaqno weeyaan inaan realist noqono on san uli heshiinayn kii xaqina noo ogolaan karay هذا جيدنا هن مع العقلين عقلات يحكي كريمة سدومي دي إيطال كينو إيطال ما واحد اللي بيني أنا لأنه بحسي لأن هذين هو يدي خلاص يبقى لي مركب وحوي أنا فكر كيف هو بيعي حطيت دورش بعد جيبوتي يو دمي بنت يعني هيتعسو يا دي ما ممكن الإرياء بقوله شيء إنك حان هالس أبغى أو حل معمول كدنبي ما تبغى متقفنا بلاش بس هو مسين معي سيدي حقين هنقوله لهين حقي رجب تيجينا لضون إن نذكرنا حقين نسان قوله لهين إنك وايد بشدة وبشو ولي أنا سوى تنظر كنا الله يربط الجبرات كي وحنا نسلان إن الديمقراطية قالوا يحجل وده قالوا ويجلسان وإن الرياضة معنا البرازيل الرسمية وعندنا عد كسبنا عندك الحقيقة وكلا لا هاي إني بريد طالب عن وقدم مع المعمول كم تقول بريد إني أنا قاعد وما أركيو مركا أمانة مغطس أنا لطاي مركا حتى واحد في كراسة هنا أنا بخشين بوي أنا أد بنطني أنا كتا أوروبا محاهد معيدا عرض كا جبتهم جبتيا جبتك حبلا والله doonaan baha aadane oo horta badanka ciise u badan waxaad arkaysaa yankii oo xaq doonaya oo ka soo horjeeda xisbigan iyo rejiimkan wadanka haysta oo inala dareemeen xaq daradii calanka markii la qaatay markii lagu bilaabo oo markaa weli ka taagan oo bilow ahaan ciise mid uu haayo in calankii iyagu helaan si warkii inay ahayd إنك هالنوالي سيدنا لقو بلاوي يبقى لقو بلاوي هاي هوس وصير دعدعضي وهاي وحن قبيالي دي واحد هالكامر كي جو تسي جو ما يسوي كسي دعدعي عدنا تاوى سيكا لقادي عدنا
iminka aynala arkeen iyagoo haddana dhibtiinala arkay inay weli haada ay doonayaan markay reer Jabuuti ka leeyihiin badakoodu iyagoo ku awrkacsanaya reer Jabuuti inta kale oo dhan marka waxaan naanu maqlaa inaad ka warhaysiin mooyaane nin Canada jooga oo isagoo barre la yidhaahdo oo badanka ciise u hadla oo kolkolna reer Jabuuti oo dhan kusoo daro reer Jabuuti ka cawra askari darajinka yidhaahda haddana ciise afar baa wadanka iskale kuwa kalena halkoodii baan ku celinaynaa oo hadallada kusoo daro kuwa kalena sidiisa haddayna u qayiixina hay si dadban had uga dareemayso inay had iyo jeer ay kuwa farta ku godayaan ciise afar baa le wadanka c'est vrai ici afar waa majorité ici tiraan majorité weyn afarna dul ahaan majorité in oo dhulka soo badan iyo kale kida bulshaduna haddii majorité la sheego majorité saddexaad inkastoo ay degmooyin maahan degmo baadiya kuma liidooka haddii dhulkii waddankaagii maahan loo odhanayo waayo magaalada Jabuuti farsiis ka sameeyey waa la soo wada degay waxaa la odhan karaaba inaan ubuq aan farta degan amba maxaa helay meeshii la isku leeyahay Eritrea frontier-kii ahayd dumeera inay uga dhow yahay ninkii gadabuusiye jooga loo yahay shishideeda heer deganaa أو استوصلوا بدو يكابيتالك فروتيرك والله قال كده إنه كلامه يدك أسوق قيتان الصومال الجاي لكن ما شو دونا على جودة يمدي عاصمة جيبوتي بالشدة وقال كي بسديت وضع كجيبوتي تذكر كنا ليهين إن مال وذي يمدي هاي وقال تعرف حواس كذا ضربة مرة دي وذي يمدي تذكي يمدي تذكي جيبوتي كرياسيون جيجا يمغالين كذا كيف قاعدتي إنا بياشين ياشين هاي تاريخان لو ذكرنا كستي رجيم كنيم كوخبي مركا أنا فكر كان فدر سنة يوحويان قلت لك إنا رياليست نقولنا قرر هذا السنة إن أنا قرر كاسي قلت دكيني وسكسو وريو أبود زياو موجيو pourcentage population بجوت أنتي بتليان ميزان كي قال أركو يدو ميزان كي قال أركو يهشيس عدل الله قالص لي حقه ومدة أنت عليك حقيقي وهي لله وحقه بالجود تسي إن هذي معمول كرجيم كنا تري دكتاتوركا إيوه هذي تابع رجع إمك إني بدلان دوني إني معمول كردان دوني ولي فكر كي مش قايلين إني بدبورسويين منورتيا هون ديجاننا كلها يجيبوا سيفرال ديجانا كلنا يمجري لكن مقالة سباحة وين لينا ندقنا سو قابي بدوبي سو قابي باي واسو قابي والله مركا أنا واحد فكرة سويتنا حوين نعم نهرت قرقة وفي عين واحد ضلنا يوم وطاينا صور ركو وأنا كوالد كذا بنص دي جبتي عن مو وجونا هاي لابد هنا عن هالشيء ده اللي قال لي هاي كان هو عرقنا حقيقي إنه هذا الشخص كأنه سووا برنامج هو طيو سلو أوليسو سعوداني وصوب حيو أنا الشيء كان لنا حقيقة كهلا إنه نافع ولينا حالات كسنة سيد بريء ده ما هم حسبه أنه كو مدحوينه كدونا من جبوتي يعني وحي لك تاني رياليستين ما فهمتي ولا أوكي ما صدقت thank you very much اسمع المحط كون كيسة حق بحلاي horta mataqaanaa uu mahadsan yahay ninka maaragtay walaalkeena halkaa ka soo hadlay fikrada mataqaanaa fiicanna uu soo jeediyey ma garanaysa kuwa aan deed la qaybsanayo kuwa aanan mataqaanaa maxaan ku dhahdaa aanan ogolaynba labadaba mataqaanaa uu soo jeediyey kolkaa anigu taanrin lahaa waxayaan horta magaalada Jabuuti waddanka Jabuuti marka la leeyahay dad baa leh anigu waxaan leeyahay meesha waddanka Jabuuti afarna ma laha ciisana ma laha cid kalena ma laha dadka reer Jabuuti oo dhan ayaa dadka waddanka waa inaynu wada simannahay nin mataqaanaa maxaan ku dhahdaa si gaara wax u liinay ma jirto soo ma kolkaa waxayaan urur marka la sheegayo ee la odhanayo mataqaanaa war ururka maaragtay horta kelmad buu ku dhufto waa lagu maaragtay maxaan ku dhahdaa awrkacsanaya war urur ma samayn kartid marka lagu leeyahay ururku waa qabiil qaran ma waxayaan adigu ma noqon kartide aniga isoo daba joogso
dee maxaan kuu soo daba joogsanayaaba meeshii taala wax aan kaa arkay ma jirto ood i tustay oo i odhanaya berritoole ninka reer jabuuti cidduu doonaa ha ahaado iminka mataqaanaa qolaa kowa qolaa laba qolaa saddexa qowmiyado kalaa ku nool ha anigu dhalinyar baa jirtay mataqaanaa gareegoo mataqaanaa ku dhashay meesha mataqaanaa soo wada korray oo waddanka mataqaanaa maxaan ku dhahdaa meel kale aanan arag inama xabashiyaa jira ma garanaysaan iskoolada soo wada galno kubaddooda ciyaari jirno oonan meel kale argo halkaa ku dhashay ma waxay ka dhigan tahay berritoole kuwaasi wax kama noqon karaan waddanka kolkaa waxayaan meesha waxa muhiimkii waa in la sameeyo wax mataqaanaa programma oo odhanaya war adigu kow ma tihid adna laba ma tihid adna saddex ma tihid ee waxayaan xeerar dadka oo dhan mataqaanaa u dhaxeeya oo nin kasta oo reer jabuutiya uu qoofo uu yidhaahdo berritoole mataqaanaa madaxweynaan ka noqon karaa waddanka wax alla wax ka horjoogsanaya inayna jirin maanta waxaa la leeyahay ururada macaaridka dee waa shiru waxaa samaystay maxaan ku dhahdaa xasan gureed baa samaystay oo yidhi 4 urur ayuunbaan mataqaanaa sharciyeynaya cid kalena ma soo gali karto anigu waxaan leeyahay war dastuurka hala bedelo ciddii doontayba ha samaysato mar hadday jirin waxaan rabaa mataqaanaa urur inaan samaysto dee hala samaysto marka dambe in meel la iskugu yimaado taasna waan idhi war haynu wada fadhiisanno annagu waxa aan soo qoraynay waxa aan aragnay dhibaatadanna haysatay sida looga baxayo markaan leey sida looga baxayana ma aha tu mataqaanaa doco oo dadkaygu uun ku salaysan waa tu dadka oo dhan u cuntamaysa haynu meel wada fadhiisanno oo markaynu meel iskugu nimaadno ta aad haysaan iyo ta aan hayno haynu isku geyno markaa wixii aynu maskaxdeenna markaan isku geyno in noo cuntamo labadeennaba saddexdeennaba afarteennaba haynu ku meel marno ismaaciil su-aal kaloo kaftanaan ku weydiiyo dastuurka jabuuti wuxuu qorayaa in wax loo qaybsado ciise iyo canfar horta wax si uu caddaan ugu qoran yahay ma jirto sade waa sida ahaan barska waa maaragtay laba qabiil ayaa wadanaya kuwa kalena dee waa dad yimide weeyaan kolkaa marka mataqaanaa la qaybiyo waa dhowr iyo 60 baa mataqaanaa lagu qaybiyey member of parliamentka ma garanaysaa maxaa dhahdaa guurtida ama jabuuti dee waxaan u malaynayaa 7 iyo 8 ayaa mataqaanaa cid kale soo maaha kolkaa ha waa mataqaanaa maxaa dhahdaa practically waa afar iyo ciise aduu mataqaanaa maxaan ku dhahdaa bahashi laakiinse dee wax dastuurka u qoran oo gaar loogu qoray ma jirto dhegeysta ayaa ku jira khadka walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso halo maya cumar waa dubad weeye waa muxuu ahaa speakerka cadal okay dubad maxaad kaga qayb galaysaa barnaamijka markaa waxa weeye dee waa sidaa uu ismaaciil u sheegay intii hore waan iska maqnaa meelkan maan wada dhegeysanayn laakiin sidaa uu sheegay weeye wax walba annagu waxa weeye wax iyagu waxaan usoo official kenyaga iyo mishinkaygu weeyahay sidaa uu ii sheegay ismaaciil intaa uma ku kordhinaya waa intii hore idinlama socon si wanaagsan waa mahadsan tahay kaas waxa ahaa gudoomiye-xigeenka ururka adal master dubed oo isna khadka telefoonka nagu soo wacay isagoo jooga magaalada Ottawa gudoomiye waan soo gabagabeynaynaa guddiga gabagabadii maxaad odhan lahayd dadka aad mataqaanaa madaxda u tahay iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa iyo haddii reer Djibouti iyo reer Soomaaliya yihiinba doonaysaan inaad mataqaanaa aad nolol ka duwan noloshan dadku ay ku nool yihiin
oo geysaan dimuqraadiyad dadku inay walaalaan yihiin dadku inay wax wada leeyihiin wax wada qabsadaan ee ayna dadku noqonin numbers ayna noqonin ilaa majority iyo minority iyo mataqaanaa wax kale aan number ka dadka la siinin Djibouti dad badan baa ku nool haddii Djibouti number la siiyo dee dadku waxa weeyaan saa maanta ku noolaanayaan bay ku noolaanayaan nolosha saa bay ahaanaysaa haddii kale waxay noqonaysaa markaa in noloshu saa ahaato laakiin haddii noloshan iminka aad leedihiin dadku ha wada yeeshaan dadku ha wada noolaadaan ha wada qabsadaan ha wada fadhiistaan dhinac uga soo wada jeestaan dadka reer Djibouti ha isku tashadaan baad hadda soo jeedinaysaan maxaad markaa odhan lahayd markaa adu waad mahadsan tahay horta Omarow sidii aan horeba u idhi waxayaan sida qure ee Omarow mataqaanaa aan kaga baxayno dhibaatada horta waa dadka amba reer Djibouti ha ahaadaan amba mataqaanaa waqooyiga mataqaanaa Soomaaliya ha ahaadaan ciday doonaan ma garanaysaa qabiilkay doonaanba ha ahaadaan ma garanaysaa amba mataqaanaa maxaan ku dhahdaa kilinka shanaad ma garanaysaa Itoobiya ha ahaadaan horta qofka bini aadankii waa xornimo u dhashay kolkaa qofka bini aadankii marka xornimada laga qaado waa inuu diido waa inuu ka dhidhiyo waa inuu ka dagaalamo weeyaan dullinimada waa inaad diiddo sida qure ee lagaga baxaya inuu xiyaan waa dadkoo midooba kolkaa xusuusan haddaan maanta reer Djibouti haddaan la hadlo war waxaan leeyahay taliskani 43 sannadood ayuu ina haystaa waad ogtihiin dhulka waddanku halka uu marayo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan dhaqan ahaan nabadgelyadii sida qure aynu kaga bixi karnaa waxayaan innaga oo gebigeennuba gacanta iswada qabsanna waa iska hadal weeyaan kanaa hebela iyo kanaa hebela waa waxa uu cimri dhararka ka sii dhiganaya Ismaaciil Cumar haddii aynu taa ka ogolaanana halkaasun baynu ku noolaan iyo taas iyo tuka sii xun maanta Djibouti markaad tagto marba dadku waxay yidhahdaan oo dee waa wax laga ducaysta weeyaan war maaragtay maxaan dhahdaa gumaysigii baa noo dhaamay ma subxaanallah maynan ahayn mar la yidhaahdo mataqaanaa gumaysigii baa noo dhaamay maanta halkaasay joogaan dadkii reer Djibouti laami qura oo hagaagsan ma jiro aqallo qurux badan baad arkaysaa in laami aanan lahayn biyo qurun iyo mataqaanaa maxaan dhahdaa khoor oo cudur kastiba ka dhalanaya ayay mataqaanaa dadka ku nool yihiin dad baa jira maanta magaalada Djibouti aanan dhadhaaranin dharaar dhan dheri aanan dhadhaaranin sixir bararka ka dhacay dad baa jira aanan hilib iyo kalluun aanan arag abadkood maanta magaalada Djibouti marka waxaad leedahay taasina waqtigii gumaysiga iyo maanta waxaad leedahay gumaysiga u dhaamay dadka qaar baa saa kule dadka qaar baa leh waa wax laga mataqaanaa laga naxamaynayn gumaysi waa waxa laga ducayso waa waxa laga dagaalamay waa waxa mataqaanaa dibadda la iska dhigay in maanta la yiraahdo war dharaartii baan dhaannay waxay ka dhigan tahay halka aan joognaay inay tahay meel hoose si fiican dhegeysta ayaa khadka ku jira walaal magacaaga meesha soo sheeg Hello, السلام عليكم مالي مقيا والله مقليا si toos aad ku jirtaa khadka magacaaga iyo halka joogto iyo su'aal waxaad weydiinayso ama waxaad ka fikirka ka qayb galayso la wadaagayso shacabka maxaan ku dhahaa Soomaaliyeed ama reer Djibouti Ismaaciil Yuusuf oo hadda ku jira waa waraysi gaar ah maanta ka qaadanay oo ah gudoomiyaha ururka adal marka ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة دمان ودود السلام يا تركي يدك الصومالية كلها كتشة مقعي روح ويا فتح عمر كاهن وحكى سو هذا ترانتو كندا إسماعيل يوسف أبو سلام يا نادر أبو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جيتني دودا يو هذا الذي يسوي ثانية وأنا جيتني وحير قرر بينا كتر سؤال ما قبولي لكن حرر بينا وحير كتر صدا هاي ما كنت أعمل إسماعيل.
waxaan ku darsanayaa waxa weeye horta qof reer Djibouti ah anigu reer Djibouti baan ahay Djibouti waan ku dhashay hooyada Djibouti baan ku dhalatay iska daa يعني لا أقول تحب الشيء التربعي ذلك يجري جبتي ما هم معناتها إلا إذا هذا رهبل يرهبل وين كان معناتها جبتي ويا لا يو قبين كلا قبين دكتور جبتي وواح لقى قصة إيدي سنة يوم وما ضلت ودلتي إذا دون طبعا هذا أنا قدام هاي خريج جبتي والبخاتة كانت كي هراء واحد قبيل أو لوكا قاد ما ناقوني فرانس كان سكوت الدودي كان اللي إنت نشارك هاي إذا يجيني إذا نقلنا هاي تونا ما نقول وحالي ووح ومدة رجوا مثل الله قال تطبيق تطبيقات كذي كده في مركز يقول كذي كده بلا بقى يبغى قيبنا وقابل يبغى شيء كهوري تطبيق تطبيقات قيبنا وشيء كده في تطبيق تطبيقات كذي تطبيق تطبيقات كذي كهوري وأوريجينال جبوتي ويجي قبل كده أنا ما نقدر بس ما الشيء ما نقول تاني سنة هل أمد بدنا نريج أو مش أقول على في بيتشته أو أحد أسوأ مالي بهاي ليش قلت مركل الربيع وحاجاتيان أم باي واحد كهديان الزحان وطول بيو أيديان تبت ما تمشي تالا تبت وحكينا وعدالة الروي ومن عدالة روينا كل بعشرون بس لما حهدي قص قارو بس قارو لو قلنا وحقوق خطرت ما أنت هم درج جبوتي كلا قيبية هريا لنا ولا ودقي هاي وكونستيوشن كجبوتي وي كونستيوشن كجبوتي هذول صحسنين أمد ريج جبوتينا أصحسنين wax u hagaagaya iyo wax maxay yiri maanta tan ugu jiro soo dhaafo imanaysan ma jiro meesha u jirto halkaana waxa dhigay waa markii guddiga la qaadanayay ama guddiga la qaatay daftarkeega guddiga hagaagsan lama qaadan ma guddiga Faransiisku noo soo saxay xusuustu doonayay iyo cid isu doonayay inuu u dhigto meesha inay haddo ayuu baa meesha timid kuwiin baa maanta kolba shaar gaar ah ku soo xiranaya wixii iyo dadkii usoo hargameeyey hawsha intaa leegu soo galay dalka ay usoo dhintay runtii ay ka go-onay inay maanta ummadda u keenaan ummadda reer Djibouti u keenaan gobonimo xalaalana dee waa wax maanta magacooda la aasay iyo taariikhdooda la tirtiray iyo dad aan leeyahay maba jiraan oo dafraad cad loogu jiidayo marka anigu mid baan horta kasoo horjeedaa kasoo horjeeda waxa weeye kelmadda laleeyahay majority and minority majority and minority that's ridiculous waxa majority and minority meesha la yiraahdaa ma jirto in number la tiriyay oo odhanay numberkaas majority numberkaas minority na meesha ma yaalo anigu haddaan haybatay Umar ma aansan inaan hay minority mana maqli karo in wala minority waa tahay sida kursi waa tahay dadii qabiil kale oo Soomaaliyeed oo meesha degan ma aansan inay minority waxaan aaminsanahay ummadda Djibouti haddaan rabo inaan wax wada yeelano inaan isku naxno isku naxariisano si walaaltinimo iyo wanaag ku jirana inaan wax wada qabano taa ku taageeraya Ismaaciil waa taa weeyaan ku taageersanahay wana ku saxsayahay tan kale xufta keentay xeelad xisbiyada markay noqoto ummaddu waxay u baahan tahay marka dhulka gasho geed cusbaday baahay nin aan geed cusbada haysanin waxba ma qaban karo marka duruuf baa keenaysa inay cid waliba tiraahdo halkanaan haysta iyo halkanaan qabsaday Djibouti wixii dhibaato ka soo gaadhay Ismaaciil looga warrami maayo goobjoog buu ahaa una joogo una ogyahay anigu waa ka soo maqnaabo wadanka runtiisa dadka inta la ka dhacayso aniga laftarkayga memory-ga igu duuban maskaxdayda igu jira waxa weeyaan ilaa maanta qalbigayga caloosha ku jira waxa weeye Djibouti-dana ani originalkeeda ahay dad jecel dad walaalo ah dad aan kala qaadqaadin dad aan Afar iyo Carab iyo Soomaali cid doonaan ba ahaadana aan isku kala qaadqaadin qadka kaga imid taas ahayd anigu ka tafaasiyan wixii ku jirtaana waa taa baba aaminsanima waxyaabaha qaarkood laga sheekeynayo waddankana dhowr iyo toban sano in ka badan baan ka maqnaa ma aaminsanima waxa la sheegayba walaal experience ay tahay iga leeyahayna ma aaminsanin marka runtiisa maxay haday ummadayda reejibti odhanaya waxa weeyaan maanta dibtan taalad ka cabanaysa haddaad reejibti dibtan taalad ka cabanaysa horta joojiye shayga la leeyahay waddanka reer baale iyo cid baale inta reer waddanka uu leeyahay inta waddanka cid sheeganayso inta number gaara lagu kufanayo waddanka wax cadaalad ka dhacaysa ma jirto maxaa maanta taagan wax ka daran ayaana iman doonaa anigu dhowr jeer baan horena ugu yidhi mucaaradka rejib haddii sheekadina ay tahay Ismaaciil baan bedelaynaa kursiga Ismaaciil baan bedelaynaa Ismaaciil kalena waan keenaynaa daanu mar labadii ma taageerayo kana maxay leeyahay idukuna maxay leeyahay raalliga ka noqon ma idukuna taageero ma dhibaatadii isku diisan maayo kulli baan arrimaha dibadda dib baan uga joogaa
baan uga joogaa aniga iyo intii la mideen kale baa waddanka dib uga joogta sababtaa waddanka dib muddo badan baan ka maqnay waddanka dad muddo badan ka maqan tahayna ma ogaan kartid xaqiiqada runtii meesha ka taagan ma ogaan kartid marka aniga xaqiiqada wuu iga dhow yahay ismaaciil aad buu iga dhow yahay wuuna og yahay waxaa dushaanu ka arkayno iyo waxaa ka socdana dhammaan ishuwa wada macalina waynu wada arkayna waynu wada ognahay midaan keliyan kula dardaarmaya dadkaa maanta inaka aad haysata halkaa uu ku jiro qabiilku uma jira wuxuu ku jiraa mabdigiisiiba uu ku jiraa mabdigiisu kaga hor yimid uu ku jiraa qabiilku doonaba ha noqdo I don't give a damn qabiil anigu cidaba kuma taageeriyo laakiin waxaa ku taageeraya mabda baa walaala isugu yahay mabda baa wax la isugu noqdaan mabda baa meel wada mari kara maalintii gobonimada geliyeen nimanka maxay ahaayeen maxamed xarfi iyo kooxdiisa ay gobonimada qaadanayeen u dagaalgalayeen ugumay dagaalgalayn reer hebel baan nahay reer hebel baan Soomaali iyo reer Djibouti ugu dagaalgalay marka anigu waxaan aaminsanahay oo maxay mar walba taageersanahay haddii cadaalad naftaada aad cadaalad u hesho marka ugu horeysa adigu cadaalad noqo adigu iskaga bilow adigu horta garo ciddaa tahay isogow ma reer baa tahay ma qabiil baa tahay waxaad doonaysa kala saar inaad qabiil u doonayso inaad shaksi u doonayso dadkuna maanta waxay u badan yihiin inay shaksi wax rabaan marka macquul ma noqonayso waxay Soomaali oo dhan isku dulumtay waxay Soomaali oo dhan isku gowracday waxay Soomaali oo dhan isku leysay ilaa maanta la isku keeni kari lahay Soomaaliya meel isku timaado African Alliance aragna boorkeedii madaa marka horta Ismaaciil waxaa leeyahay congratulations leadership baa tahay fiican baad qaadatay waad ku mahadsan tahay go-aankaaga iyo hadalkaaga iyo hadafkaaguna cadaadan oo wax meesha ku jira ta kaga tegaya dhammaantiin waxa weeyaan haddaad rajulkiisiin kala saara kursiga ciddaad ku bedelaysaan ee shaksiga ah iyo hadafkiinu fiyaa kala saara marka labadaa kala saartaan baad wax keeni kartaan iskuna iman kartaan laakiin intay shaarku ii soo gashanayaan qofka shaksiga uu yahay reer hebel at the same time nasra qofka horta meesha ka dhawaaqay ka dhawaajiyu leeyahay waa lagu guurayaa qof waliba caqli uu leeyahay uuna garanayaa waxa hor yaala iyo waxa la gudboon intaba uu garanaya marka iska ilooba haddaad tihiin dadkiina reer Djibouti kursiga khaasatan kelmadan ah minority baan inayka noqonay I don't believe that in a minority ma aaminsanin inay cidka Djibouti minority tahay ma aaminsanin war waa musliminahay minority waxa ah qofka qalbiga minority-ga kaasaa minority ah qofka xululka buuxo ee ummadda aan xaqiraya kaasaa minority ah marka waxay xun hala iska qabto meelaha lagu soo wada jeesto intii wanaagsanna meelaha wada marto ha israacdo hadafna ha lagu walaalobo qabiil qaran ma noqdo qabiil waxba la iskuguma aha dadka wax isku qabiilka way isku baaheeyaan waana la isku taageeraa laakiin marka siyaasad noqoto waa lagu kala duwan yahay walaalkaaga hooyadaha dhashay baana dad siyaasad noqon karin ana la mid noqon karin markay noqoto hadaf siyaasadeed cidaad wax isugu dihiin waa cida isla fahanteen intaasaan kaga baxay waan idin wasalaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxaad oran lahayd Ismaaciilow fikirkaasi والله فضحية waxaan ku biiriyaa ma garanayo fadxiya ma aragtay wixii oo dhan way dhamaysay waanan mutqana aad bay ugu mahadsan tahay fikrad fiican maskax furan waana runtii horta mutqana maxaan ku dhahdaa qabiil wax la iskugu yimaado ma aha ma garanaysaa oo waanan ognahay qabiil mutqana meel isku taaga ma laha eese mutqana hadaf inayn mataqaanaa iskugu nidaamno ayaa mataqaanaa meeshii taala waana runteed markay sheegaysay dee meel unbaa laga bilaabaa waa tii jiri mataqaanaa qof dhibaataysanay dee wuxuu mataqaanaa waxbuu cuskadaa marka ugu horreysa kolkaa haddii maaragtay dee sidan markii ugu horreysay aan sheegaye dee markay dad isku ururaan intaa isku timid dee mataqaanaa dhibaato mataqaanaa ka hor timid iyo dee baahi meeshii taalla ayay iska soo urursadaan laakiinse marka dambese in la isku yimaado oo intii isku dana ee wax mida wada doonaysa dad kalena aanan dulmiyeyn aanan mataqaanaa dad kale ku duulayn aanan dad kale dhibaataynayn laakiinse la war xaqaygaan rabaa intaasi inay isku timaado ma garanaysaa meel wada fadhiistay ayaa meesha dhegeyste kale ayaa ku jira khadka ku socda magacaaga meesha too
هذه ما كل سلام هي أو مغلسان هذه هي كأوضاع مرتدى هي اللي برنامج كذا تجري صلاة الإسلام كذا كل سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. runtii aqoon-yahanku wax badan buu ka hadlay anigu su-aal ma soo gelin laakiin in yar baan la shaqeynayaa waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed u dawa ah weli noo tilmaamo runtii waxaan ku amaanayaa in gobolka ama other empire loo oran jiray ama barayaafka lagama dhowro ee beesha Samaroon waa beel mar walba lagu baxsado way aqoontaa keenaysa ama Djibouti ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto ama Somaliland ha noqoto waxaa tusaale nool inoo ah tusaale ahaan Somaliland oo kale markii aysan timid nimankii systemka Somaliland maanta ku shaqeysa oo cagaha u dhigay meel system ma shaqeeya haddaan nabad jirin oo waxa weeye dee systemku wuxuu ka bilaabay markii nabad la helo ayaa wax dhaqaaqi karaa waa kuwii Israeltu systemkii dowladnimadii iyo systemkii wada shaqeyn waayay وكي أفضل ورشوا لقي وكي حتى مركي دم بأي مدحولها النقدين وحنا يمكن نسيوه وضع دور شوي كان سيستم كم الريال عملي وحوها وكيف الشيء يسيبه كأقول تكيري سين ومضوا عليكم بحثته وحكيري درشة كريمة وحويه صومالي وحنا قلت قبائل بيقطي جمهورية وينيد وين يقبل برطي قبائل دي وافدي مرمو يتهلا wadogtahayo su'aalaha ku siinaya iminka Somaliland oo kale marka mas'uuliyiintoodu ay xabar joogaanna waa dir markay Somaliland joogaanna waa sawirooyaysaa waxyaalaha cajiibkaa wey wadogtahayo waxa weeye iminka Somaliland oo kale haddii nin isaaq madaxweyne noqdo ninka keliya noqon karaa waa nin sawiroono haddana waa dirtii koonfur haddaad tagto waa nin hawiye iyo nin daaroodo waa qabiilkii waa meesha yaalla system custodian وهذا كتايو جبوتي وكلاي وفاميلي جبوتي كسو جدا لكن dadku iyagu Djiboutiana oo fikirka haya hada qabyaaladii ma ka gashay hal waranaya sawirro hal waranaya isaaq hal waranaya Ciise hadana markaad qolooyinkan diaspora joogo hal waranaya waa dir haduu mid sawirro joogo iyo haduu nin Ciise joogo nin isaaq haduu joogo bixi sawax loo hayay marka waxa weeye ummaddu inay fikirka ka guurto oo dadku fikiraan waxay noo dano intaas waa la sheekeynayay hadiyad baa idin salaamay aad baan ku salaamanaa waa mahadsantahay gudoomiye kaas waxa gudoomiye nin ka soo wacay qadka telefoonka maxaad oranaysaa maanta fikirka maxaa ku dir lahayd Ismaaciil waa soo gabagabeynaa waan ku ragnaan maranayaa Ismaaciil ma maqashaa si wuxuu googo'ayo kale Cumar uu yahay hadda waa isbaan ku maqlayaa maxaad ku dar lahayd kale عمر ما أنا جيتها. هذيك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. عمرو. ها كسر. تاو شيء جاي متخنا دقيستهاسي. أن قبيل كما قرنيسا يد دبعتها ذا كوه سو مالي ذا. أي أركيان أنا هو حمر بنت جاي أن ديسمبر بانو مالينيا مدحيدي كل كاسا إنما أنا قلت جاب درار متخنا عزومي مقرني صان يروضا قذيني كل كاسا ما ركتي وحي كشكينين دبعتها قبيلة إلى ذا كل كاسا شيكا مجاجل وحي رهدين أن نبا وحي بس بسوقي بس كيبا متخنا محا قرادا كهور بحسنين كل كاس سويري وروا سيدي من المتخنا وان دغدغ ياو غلا سالي ورو كاب بحسنين ما غرانيسا محا قرادا ان دي بخبكو ما هين ورد برسوغا بودي برتان حسابين ولا سودا ادغو اياتا ايو markuu xisaabiyay buu warday afartii barkii bas kuma qaybsana kolka waa in qaar laga soo dhaadhiciyo ma garanaysa si aan anigu mataqaanaa fuul kolka way ku kaftamaan imika waxay arkayaan oo ay ku leeyihiin halkii aqoontii ma garanaysa laga dooni lahaa ayaa qabiilkii laga doorbidaya waxay maaragtay subxaanallah ku noqonay
qof mataqaanaa waxaa loo baahan yahay aqoon leh waa lagu diidayaa meeshii wuxuunan ahayn qabiilkii ma garanaysaa la joogo oo waxaa laga yaabaa in lagu bedelo qof mataqaanaa aanan meeshii u qalmayn kolka waa dhibaatooyinkaasoo meedhan bay mataqaanaa qabiilku ay leedahay si wanaagsan dhegeyste waa lagu maqlayaa maxaad ku dirsan lahayd adigu السلام عليكم ومحمد علي وي waxaan kamid ahay ururka adal ku soco waxaan ku darsanay horta waxoogaa majority minority waxba laga hadlayay gabadh baan u jawaabaya anu waxaan maxay ahaydeen xasuustaa website-ka waxoogaa waxaan nisiinayaa data ama doonay ku soco markaa internetka ku dhegsnaydo waxay ahayd website naadoziniga laga galaayay oo markaa la arkayay Djibouti adduunka oo dhan boqol kasta way ku qorneyd meesha markaa Djibouti haddaan statistigii markaa ka taraga waxay ahayd 790kiiba ayuu yaa statistiga markaa la soo qaaday markaa statistiga waxa ku qorneyd waxooga waxaan sinaa xagga nacam warahaan si fiican u soco Djibouti haddii la yidhaha minority majority waxaas dadku ma kala badnaba مثلا waxaa ku qornay ciise boqolkiiba wuxuu ka yahay Djibouti 40 afartana waxay ka tahay boqolkiiba 20 baa ku qornay website-ka Gadabursigu wuxuu ka yahay ku qornay boqolkiiba 15 isaaquna wuxuu ka yahay ku qornay boqolkiiba 13 kuwa kalena waxaan u maleynayaa boqolkiiba 8 iyo xankaas inahay boqolkiiba 6 waxba ku qornay ma aad ma xasuustay laakiin website-kan intaas baa ku qornay waxa weeye Djibouti haddaba markaa raggan qabsaday ma garanaysa horta waxa weeye gumaysigu markuu ka kacay wuxuu kaga tegey kuwii iyaka markaa dabadhilifka u ahaa markaa kuwii dabadhilifka u ahaana waxay u sii maamuleen dalka si maad aragtay dee sidii gumaysigu u maamulayay ilaa iyo 770kii ilaa maanta sidii unbay ma garanaysaa ku wadaan markii hore wuxuu ahaa farsamadu odaygii xasan guuleed oo de aad kolley aad garanaysaan ma garanaysaa taariikhdiisa markii hore dowlad gumaysiga un ma garanaysaa la socduu ahaa kadib markuu gumaysigu yidhi dalkan waan bixinaynaa ayay yidhaaheen okay xasan oo dhaqaaq la yidhi xasan sidii baa loogu dhiibay markii horeba uu ka soo horjeeday ma garanaysaa gobonnimada in la qaato sidiisba uu ku soo maamulay ninkii diini 6 bilood kadib oo ka dhaadhacay cadaalad darradii markaa uu ku arkay ma garanaysaa dalka hadda walaal xasan wuxuu ku bilaabay meesha ciise inuu dadkii kale oo dhan maad aragtay casilo afarta baarlamaanka waxbay ku leedahay oo waxoogaa dee iska wanaagsan bay ku leedahay oo kala badh u dhow laakiin wax faa'iida oo ay leedahay ma jirto sababta waxa weeye dee ninka madaxweynaha ayuunbaa ma garatay haysta meesha oo wuxuu doono ka yeela kadib markaa sidaas bay ma garanaysaa wuxu socdaan sidaas bay wuxu socdaan si fiican haddaba waxa weeye anigu waxaan isleeyahay weli wax ma dhowa markay dadku dhulka soo taabtaan ayay maxay ahaydeen ayuun baan u malaynayaa ayay markaa baraarugayaan oo maaragtay odhanayaan maxay noo dana si fiican waxaan madaxa u malaynayaa lama gaadhin waqtigii sidaan anu isleeyahayna ninkani nin meesha ka tagaya maa cid ka kaxaynaysaana ma jirto ciyaalkiisu yaa markaana sii qaadan baa laga yaabaa marka waxaan u malaynaya xoogaa baa hadhay aad baad u mahadsantahay guddoomiye intaan kusoo koobaya waa mahadsantahay guddoomiye aad baan ku salaamnaa thank you very much
waa ismaaciil waa qaybta u dambeysay gabagadan ku jirnaa kolley ninkaas ugu dambeyn doona telefoonka gunaanadkii baan hadda kaa suganaa waxaad ku gunaanada hore usoo gunaanaday maadaama haddana cid kale ay soo gasho fikiro badan ay soo dhasheen wixii gunaanada unbaad kusoo xidhi hadda haddii ilaha yidhahdo waad mahadsantahay cumar horta way mahadsan yihiin maaragtay daawashada iyo maxaan ku dhahdaa dee halkani ka soo hadlay fikrada mataqaanaa aad u fiican baranaysaa oo deed aad u caafimaad qaba ayaa laga soo jeediyey waxa aan deed isku soo gabagabayn lahaa waxayaan horta dhibaatada sida qura ee lagaga baxaya ay waxayaan waa horta tiyo dadka isku yimaadaan waa inay dadka mataqaanaa amba hadday jabuuti tahayna dadka reer jabuuti oo dhan iyagoo mataqaanaa qole iyo qabiil iyo mataqaanaa waxba aanan kala sheeganaynin ay isku yimaadaan dantooda ay ka sheekaystaan dad mataqaanaa maxaan ku dhahdaa haga oo caafimaad qaba oo dantooda ka shaqeeya aanan ka shaqayn dad shakhsiya oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa isagu uu rabo kuwaasi mataqaanaa ay doortaan si ay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dariiqii hagaagsanaa ay mataqaanaa ugu ridaan hadday tahay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa waqooyiga soomaaliya waxaan aaminsanahay iyadana in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dadku iyagana dulmiga ay iska diidaan in mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dacatigan lagu dacatiyay ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa ay iska diidaan waxa kale aan aaminsanahay waxayaan haddaan ka hadal lahay aan aaminsanahay waddankan soomaaliya inuu mid yahay uunan mataqaanaa kala goyi karin oo mataqaanaa maxaan ku dhahdaa calanka soomaaliya ma garanaysaa ee buluuga ee xidigta cadli uu yahay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa calanka ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa soomaaliya oo dadka mataqaanaa reer soomaaliya meesha ay joogaanba ay ku dadaalaan ka koonfur jooga iyo ka waqooyi joogaba si ay waddankan nabad uga dhalin lahaayeen oo dadku mataqaanaa waa waddan qaniya weeyaan waa waddan mataqaanaa maxaan ku dhahdaa dee xeebta adduunyada ugu weyn magaranaysaa ee afrika ugu weyn buu leeyahay adduunyadana waxaa la yidhahdaa waddan xeebli magaajoonka si oonan la eeginba mataqaanaa maxaan ku dhahdaa waxyaabaha kale magaran amba batrool ha ahaato mataqaanaa amba qadiid ha beero mataqaanaa kalluun magaranaysa waxay ku ahaato magaranaysa waa waddan inaynan adi ku gaajooteen magaranaysaa kolkaa dadka mataqaanaa soomaaliya in ay waddankooda si waddan mataqaanaa degan waddan nabadgelyadu mataqaanaa nabadgelyo fiican leh waddan qaniyad mataqaanaa yeesha ay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa ka dhigan waxay noqotay mataqaanaa keli ka shaqaan iyadana mataqaanaa mataqaanaa dadka ku nool halkaasi iyaguna ay mataqaanaa maxaan ku dhahdaa gacmaha isqabsadaan oo kii meesha ka talinaya dantooda mataqaanaa u soo jeedu daafacayana ay gargaaraan haddii uu mataqaanaa maxaan ku dhahdaa una dantooda mataqaanaa fulinayna gebigoodu aynan isducoducayn karaysaa ay kasoo wada horjeestaan gacmaha ay mataqaanaa isqabsadaan waxa aanan aaminsanahay mataqaanaa cumaro dadka bini aadanka mataqaanaa waqti bay ka qaadanayaan laakiinse qofka dadka shicibku meeshay doonaan baha joogaan way guulaysanayaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسو وها قدوميها أوروكا أضل ودوان لغا نواقع دلك كندا ورئيسي أنت مارتين نوغو أها ورئيسي كا قادناي قلبي تي في intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo gudoomiye aad baan kuu salaamaynaa ma noqon doono barnaamijkii ugu dambeeyey waynu ka wada hadli doonaa barnaamijyo dambaad nagala qayb geli doontaa oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo waxaan ku dhahaa somaliland mataqaanaa ay meel maraysa in la qabto iyo sida shacabka reer awdal la rabo in loo mariyo sidoo kale kilalka soomaalida iyo guud ahaan arrimaha geeska oo dhan waan falanqayn doonaa tvguna waxa uu furan yahay cid kasta oo ka faaloonaysa ama falanqaynaysa arrimaha siyaasadda ee maxaan ku dhaha geeska iyo guud ahaan caalamka oo dhan marka aad baan ku salaamayaa gudoomiye waana kaaga mahad celinayaa fikirkaaga iyo ra'yigaaga waad mahadsantahay cumarow thank you very much